محمد صار عادي شو ريلاكس مسكين ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ونكسن داوديال ميل والبوء جوجتان يسي والبوء نو داونيسان كسو دوادا برامج gaara waan ugu talagalnay la kulanka lamaanaha qarniga waa barnaamij aan kaga hadli doono mid kamid ah dhacdooyinka ugu weynaa Soomaaliya iyo warbaahinta kale ee dunida maalmahan ay hadal hayeen waa madal furan wana lamaano ama barnaamij gaara way ku kulmi doonaan lamaanaha kale ah Maxamed Cabdiraxmaan Muqtaar iyo sidoo kale Ruqayya Cabdullaahi Maxamed oo toddobaadkan hadalaynta ugu weyn ee dunida ah warbaahinta Soomaalida in aad uga hadlayeen barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa taariikhdooda waayihii ay soo qaateen sidoo kalena waxa ka qayb gali doona xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya culimo u diin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo ay ku jiraan dad caan ah oo ka mid yahay fanaanka qadarkeeyo barnaamijkan inta uu socdo waxaan wareysan doonaa lamaanahan oo garabkayga fadhiya sidoo kale waxaan khudbada siin doonaa dadka martida ah ee barnaamijka nagala qayb galaya dadweynaha sidoo kale halkan ku sugan ayaa su'aalo weydiin doona oo aragtidooda faahfaahin ka bixi doona hase yeeshee Dalson TV oo barnaamijkan bilowday isla markaana ilaa waqtigan gacanta ku haysa sidee ayay wax ku soo bilowdeen maxayse kala socdaan daawadayaashana waxaan idin soo gudbin doonaa warbixintii ugu horeysay oo aan ka baahino kiiskan iyadoo ilaa marka ugu dambeeyso aad arki doontaan falcelintii ka dhashay dadkoodhan meeshaas u jeedaa sawirka Allah sameeyo qoyskani si wanaagsan ayuu waaga ugu bariyay maanta hase ahaatee casirliiqani waxa gurigan ka jirta murugo marxuum Axmed Muqtaar Saalax oo ahaa aabaha 12 caruur ah ayaa la sheegay in koox rag iyo dumar ah oo ku hubaysnaa baangado iyo basiin ay marxuumka baangad la dhaceen sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen xilli uu shaqo maalmeedkiisa farsamada gaadiidka ku guda jiray sida ay sheegeen ehelkiisa waxa dilka marxuumka loo aaneynayaa heebsooc guur Maxamed Cumar Yuusuf waxa uu goobjoog u ahaa sida dhacdadan ay u dhacday sikiisa u tagan macalinku soo ordi gud ku soo ordurabi oo maarta dadka oo irida ka xirta irida inta ku xireen laba nima meesha u taagnay iridan laba xagga ka soo bursi saddex naagood way beertay saddex naagood baagado ku bilaabeen mid waxa jiro oo leebo dheer watay oo mudac af kale oo baash musunta la marso macalinka oo la xarbiyay macalinka soo gacantiisa ay dhigay in macalinka wax u mooto dagaalka ma ogeynba ku talgalna ma u ahan marka ninka waxa arkay asagoo inta ka gali mid asay oo la socday basiin oo watay caawa uu jiri basiinka ku shab ku sii naag oo la socotay ku daartay xaasaskiisa oo la kala yiraahdo Saciida Aweys Cabdulle iyo Farxiyo Axmed Qaasim oo midna 8 caruur ay u dhashay midna ay 4 u hayso ayaana la hadlay dad badan ay ahaayeen wax yar ma ahayn ma fahantaadi ninkan waxa lagu dilay 3 naag iyo 3 rag lagu dilay laakiin naag wax dhib ka geystay 5 qof waaye ilmo ka tagay dad oo ka tagay ehel oo ka tagay walaalo ka tagay ifkan laba xaasa u joogto marxuumka la dilay ee halkan lagu gubay sida la sheegay ayaa waxa uu aabo u ahaa uu kurinayay ilaa iyo 12 caruur ah waxaana kooxda weerarka ku soo qaaday sida la sheegay ay diris la ahaayeen marxuumkan aabaha marxuumka oo lagu magacaabo Muqtaar Saalax ayaa sheegay in wiilkiisa uu ahaa xooga kaliya ee qoysku leeyahay alxamdulillah adan bas gacanta ku hayay xoogoodaas ahay kaasoo kalena ma dhalanaya ninkan la dilay ayaa adeer u ah wiil dhalinyaro ah oo guursaday gabar aysan isku hayb ahayn مسؤولينتي حزبي wadajir oo ka damqaday xaaladda murugada leh ee la soo diristay qoyska marxuumkii geeriyooday ee lagu gubay magaalada Muqdisho dabadeedna la dilay ee ka geeriyooday ilaa iyo 12 caruur ah isaga oo lahaa 2 xaas ayaa maanta waxa ay booqdeen ehelada marxuumkaasi Cawiil Maxamed Soodi oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa ee xisbiga wadajir ayaa waalidiinta marxuumka iyo sidoo kale caruurtiisa la kulmay waxaana Cawiil Maxamed Soodi oo xisbiga wadajir ka tirsan uu ku wareejiyay qoyska marxuumka lacag gaaraysa $1,000
taasi oo loogu talagalay duugta kuna beegan maalinta berita ah. Cawil Maxamed Suudi ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dadka Soomaaliyeed ay iscaawiyaan waxaana uu sheegay in dhacdadani gelisay dad oo ku nool gudaha dalka. xisbiga wadajir xisbiga waxaan ka wadaa si inuu idin tacsiyeeyaan hoggaan sare oo xisbuna arrintaas waa ka tacsiyeeyay annaguna waxaan inaad idin tacsiyeeyo lugada ilaanyada in la qaybsano walaalayaal qof kasta waa dhimanaya annaka nagamida ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri kullu nafsin daa'iqatul maut wa tuwaffawna ujurahum faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-tifaqas wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur kasta waa dhimanaya ka dhan waa dhimanayna waxaan ka yeelnaa in sabr iyo ka sii marxuumka idin ka dhintay gadaashiisana ilaahay oo idin fadnaynin falkaas wuxuu ahaa fal aad u foolxun fal Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo albaxnimada ka fog buu ahay fal wuxuu ahay uguba oo wali aan Soomaaliya ka dhicin in qof islaam ah oo walaal ah la gubo inta la dilo adana la gubo waxaan ugu baaqaynaa oo ku boorinaynaa culimada diinka Soomaaliyeed aqoon-yahanka dhalinyarada iyo dawladda inay falkaas si isku mid ah ay uga dhiidhiyaan una cambaareeyaan. Ehelada marxuumka ayaa dhankooda ka hadlay kana mahad celiyay lacagtan $1,000 ah ee loogu talagalay in lagu aaso marxuumka waxaana ay sheegeen inay aad ugu mahad celinayaan xisbiga wadajir. runtii dhacda laga kulaada waayo oo xisbigii ugu horeeyey oo xisbiyada dalka ka jiro xisbigii ugu horeeyey aan dhahi karno ama aan dhahi karno xagga dawladda maxaan ku yiraahdaa baarlamaaniyan aan dhahi karno bimacnaa aqalka aan dhahi karno booqashadii ugu horeysay weeye macnaa xisbigan wadajir aad iyo aad ayaad u mahadsan yahay korjoogsi asna soo korjoogsaday. Geerida marxuumka waxaa horey u baahiyey telefishinka Dalsan kaasi oo ahaa TV-ga keliya ee booqday xaruntaasi marka dhibka uu dhacay kadib waxaana tan iyo markaasiba jiray dadaal badan oo shacabka Soomaaliyeed ay ku bixinayeen sidii loogu gurman lahaa ehelka marxuumka geeriyooday kaasi oo u ahaa xoog furan qoyskiisa iyo sidoo kale inta kale ee dadka ku tiirsan nolol ahaan waxaana uu ahaa nin ka shaqaysan jiray farsamada baabuurta. naxashka lagu qaado meydka ayay garabka ku sideen laga soo bilaabo cisbitaalka Digfeer ilaa iyo qabuuraha Barakaad. Marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo 4 maalin lagu hayay cisbitaalka Digfeer waalidkiisu waxay diideen maanta oo aaskiisa ay ahayd in lagu qaado meydka wiilkooda gaari taasi beddelkeedna waxay qaateen go'aanka ah inay la lugeeyaan tan iyo inta ay ka aasayaan. takbiirta oo cod sare ay ku akhrinayeen waxay keentay in dad badan ay isugu soo baxaan xaafadaha ay lugta ku marayeen si ay u caawiyaan isla markaasna ay kala qayb galaan aaska ninka la gubay. markii dhinaciisa la dhigay marxuumka dhulka ayaan la hadalnay qaar ka mid ah ehelkiisa. alxamdulilah hadda qalbigeen waa noo qaboobay Soomaaliya idila duugta ka soo qayb gashay Soomaaliyeed duugtay alaa u naxariisto anakan alaa noo naxariisto ilaahay alaa cafiyo anakan alaa na cafiyo. dilka marxuumkan ayaa ahaa mid saameeyay bulshada Soomaaliyeed dal iyo dibadba waxayna noqotay dhacdadan mid aad looga argagaxo walow weli dawladdu aanay ka hadlin. Sheekh Bashiir Axmed Salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa booqday qoyska Allah u naxariistay marxuum Axmed Dowlo oo wali dareemaya murugada qof qaali ku ah oo ka baxay. Sheekh Bashiir oo u laab qaboojiyay qoyskaas ayaa ka tacsiiday geerida marxuumkaasi waxaana uu qoyska gudoonsiiyay deeq lacageed oo ay hay'adda culimada ugu talagashay qoyskaasi. Sheekh Bashiir oo la hadlay telefishinka Dalsan ayaa nuxurka hadalkiisa ku soo koobay 3 qodob oo kala ahaa tacsiyeen dhibaatada ay leedahay dilka qof muslim ah ama haybsooca iyo in la hagaajiyo sifada guurka si khilaafka looga hortago. maanta waxaan soo ziyaarinay soo booqanay cidii musiibada ku dhacday anagoo tacsiyeynayna marka aniga magaca ku hadlahaya Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo culimadii oo dhan anoo ka wakiila wadin tacsiyeynayna waxaana musiibada Allah idinka kabo ninkii dhintay insha Allah
inuu shahiid yahaan rajeynayna insha allah qof muslima la gubay annagoo marka dee ka tiinayeysan oo dhibkeeda la qaybsanayna ayaan soo ziyaarinay marka meydka waa u ducaynaynaa idinkana waa idin tacsiyeynaynaa insha allahu tacaala sabar iimaan baa leenahay insha allahu tacaala allah u naxariiso asagana idinkana sabar iimaan allah idinka siiyo runtii aad iyo aad waxaan uga xunnahay dhacdadan oo aad iyo aad noo saamaysay qof muslima la dilo haddana maaragtay aan la gubo waxa la qaadan karo maaha diini ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xataa dhaqan ahaan soomaaliyeedba marka aan aad baan runtii u diidannahay una cambaaraynaynaa bulshada soomaalida ayaa iminka u istaagay inay murugada la qaybsadaan ehelka marxuum axmed dowlo hay-adda culimada soomaaliyeedna waxa ay hadda qorsheynaysaa in garab istaag ballaaran ay u fidiso qoyskaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta booqday qoyska axmed mukhtaar saalax oo 20kii bishan lagu gubay xaafadda tawfiiq ee degmada yaaqshid koox ka cadhaysneeda in xiriir guur uu dhex maro qoyskaasi ayaa falkaasi geystay taa oo lagu sifeeyey heeb socgur cabdiqaadir maxamed nuur oo abti u ah allah u naxariistay axmed mukhtaar ayaa sheegay in ay yihiin cadaalad sugayaal sidaad arkaysiin marxuumkii ilaah u naxariisto dhammaanteen naga tegay waxaan u jeedaa maanta dawladnimo ka muuqato sidaad arkaysiin waxa la yiraahdo cadaalad daro meesha way ka baxday haddaas ilaahay u sugnaatay madaxda qaranka oo wakiil oo ka yahay gudoomiyaha gobolka banaadir dr yariisow waxaan rajaynaynaa waa aragnaa waxaan rajaynaynaa aan sugeynay alxamdu rabbil caalamiin waa u jeednaa aniga waxay limidna waxaan u filayaa inay qanacayeen maanta arrintan waxaan u xeego waxa waaye cadaalad la fuliyo cadaaladana way bilaabatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa ka hadlay booqashadaas oo ugu tegey qoyska marxuum axmed mukhtaar inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun waxaan halka u nimid waa inaan u soo tacsiyeyno qoyskii marxuumkii axmed maxamed saalax oo loo yaqaanay axmed dowlo oo runtii gacan ka xaq daran ay dishay si weliba bini'aadanimada ka baxsanna loola dhaqmay arrintaas ayaan aad iyo aad annaga dowladda daannahay iyo shacabba runtii aad uga murugoonnay waxaan u nimid inaan u tacsiyeyno qoyskii oo xaasaskii iyo axmed aabbihiis iyo walaalihiis baan soo aragnay sidaan uga xunnahayna aan u sheegnay runtii mid loo dulqaadan kara ma aha muwaadiniinta soomaaliyeed meel walbay joogaan muwaadin kasto isku xaq uu leeyahay muwaadin kale ka xaq badan ma jiro gudoomiye yariisow ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan xildhibaano doonaya inay sii daayaan qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyey falkii lagu gubay marxuumkaasi isla markaana iyagu aysan ka ogolaan doonin waxaan kaloo uga digaynaa cidda rabto inay cadaaladda inta tagto ama islaanta xiran waxaana loo sheegaya dad siyaasiyiin weliba xildhibaanaa inay tageen ay rabaan inay damiin ku soo daayaan taas ma aqbali doono mana aqbali karno waxaan leenahay cadaaladda cid ka sarrayso ma jirto madaxda qarankana ma ogolaan doonaan arrintaas iyada ah waxaanan ugu ballan ah in cadaaladdii ay istaahileen ay helaan dadka dembigan foosha xun geystay allah u naxariistay axmed mukhtaar saalax ayaa shalay lagu aasay qabuuraha barakaad waxaana qoyska dhibka uu ku dhacay ay dalbadeen in ay helaan cadaalad qaar ka mid a dadkii gubay marxuumkaasna waxaa la leeyahay waa ay baxsadeen anagoo muslim oo dal ajnabi joogno oo Soomaali nahay oo haddana ma aragtay yani mashuunguli ama shambara aan kala nahay oo Mareykanka joogna gabdhihii adaanka naloo ogol kuwaanagan haddii naloo diido waa ayaan daro marka waxaan igu soo dhacay erayadan xaq daboo la saaraa wax ka daran ma uu jiro xildhibaan isdaba qabo intaan daartu nagu dumin aan ka doodna geeridii axmed dulankii lagu dilay haddaynaan isdaba qaban dulligana ka dhiidhiyin dada waxaa imaan kara daayin inuu caroodo sidii duulkii nebi nuux duufaanna culus iyo daad ina xambaariyo dabayla ina qaadaan dukum daakum inaga dhigo haddaynaan wax ka orana haddee waad garan karaysaa waa culimmadii ay arrintan ka hadashay mar kale waxaan rabaa halkaana fursaddan aan ka faa'iidaysto u mahad celiyo guddoonka oo runtii
ka guddi ahaan annagoo aan midnaha hordhigin guddiga guud ee golaha saaka salaadii markaan soo kalahanay noo fududeeyey in ajandaha arrintan lagu daro aad iyo aad baad u mahadsantiin wabilaahi towfiiq warbixinadaas waxay ahaayeen wararkii aan ka tabinay kiiskii toddobaadkii lasoo dhaafa ka dhacay magaalada muqdisho oo dalsan t v ay soo bandhigaysay markana waxaan guda gelinaa barnaamijkii gaarka ahaa la kulanka lamanaha qarniga waa madal furan waxaa marti ku ah maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo sidoo kale ruqiyo cabdulaahi maxamed oo hadalhayntooda dunida maalmihii lasoo dhaafay ka taagnay gaar ahaan soomaaliya dadka barnaamijkan ka qaybgalaya oo isugu jira xildhibaano culamaa udiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaan siin doonaa fursado sidoo kale waxaan wareysan doonaa lamaanahan garabkayga fadhiya oo waayahooda ka warbixin doona iyo sidoo kale sida u arkaan garab istaaga ummadda soomaaliyeed oo wada jir ah oo caawa hortooda fadhida kuwa kale oo tiro badana dunida oo dhan ay ka daawanayaan qaar kalena laga yaabo in uu gaari doonto fariintooda haddii allah ugu direedno marti sharafta waxaan ka codsanaynaa in dhaqdhaqaaqa ay yareeyaan markan waxaan guda geli doonaa barnaamijkeena waxaana wareysan doonaa lamaanaha caawa martida noo ah oo dalsan t v stuudiyada fadhiya marka hore dareenkiina ayaan rabaa inaan idin weydiiyo waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdiraxmaan mukhtaar dalsan t v kusoo dhawow soomaaliya ku hor fadhido way ku daawanayaan dalsan t v stuudiyaa joogtaa maxaa kuu baxay caawa waxaa ii muuqdo walaalaheena soomaali oo aada noo daawanayaan aada noogu muuqdo marka walaalaheena soomaali intii garabna siisay iyo intii ban ag joogto wada mahadsantiisa wada dhantiin ani wada salaamayaa waay aada waa mahadsan tahay annaguna waa kaa qaadnay ruqiya cabdulaahi maxamed dalsan t v kusoo dhawow toosaa lagu daawanayaa dadkii soomaaliyeed bal dareenkaaga caawa noo sharax waa gel waay codkiina kor u qaada si dadka na hor fadhiya ay idin maqlaan kuwa ida daawanayana ay idin maqlaan maxamed waayadan oo dhan warbaahinta soomaalida kuwa caalamka hadalhayntiina ku jirtay kiiskiina iyo dhacdadiina laga hadlayay horta goorma isbarateen adiga iyo ruqiya xaggee isku barateen aniga iyo ruqiya waxaan isku baranay xaafadda tawfiiq darisaada ahaan markaa darisaa ahaan kadib adiga laba qofood oo isbaranayso ilaa xaggiisa ku qoran mala dhihi kara maxaa isku barateen faan aniga ruqiyo yaraanteena ilaa weynaanteena waa isnaqaani balse maanta adiga waxay ilaahay qadaray inaan isjeclaan waa isla socda goortaa jeclaatay maxaa haystaa goortaan jeclaada ma baxsuusta xiligaas wax ma aba xasuusnaysa ma xili wax la xasuusnaya waqti dhowba waqti dhow waa 2 sano kasoo wareegatay 2 sano waay 2 sano kasoo wareegatay kadib adiga markaas jeclaanay kadib aan aragnay maasha allah isku qalbi furanahay laba qofood waa iga sheekay doontaa iyo 2 sano ka hor isbarateen ma adigaa yiri wax jeclaaday mise ayada wax jeclaatay 2 sano ka hor ana wax jeclaaday anaan dhahay xagee ugu tagtay markaa adeysay waxbaa iga si ah xagee ku kulanteen kulankiin ugu horeeyay ee jecelkaada ku bandhigaysa xagoo ka dhaca kulankan ugu horeeyay isla xaafadda loo ka dhacay hay gurigeeda ana mid xaafadda naga mid ah oo faadi ah oo kulankan meesha ku dhacay oo ugu horeeyay fahant waa adoo dhaqdhaqaaqa joojinaya maxay ku dhacda markaas oo dadweynahana ka horjeeso dadkan ku daawanaya hortooda ka jeeso dhaqdhaqaaqana joojiha maxay ku dhacday ruqiyo markaad dhahday
damaca iga kaa jira waxay dhahday aniga maanta qof bilaadan ma diidi karo oo maanta oo damac igaga soo galay qof muslimna tahay oo maanta oo inaa isguursanno isku banaan gaal iyo muslim ma kalani dad waxaa nahay muslimiin ah soomaaliin ah mafahant haddii yaaba adiga ay dhahday anina maxaan diidi lahay wax walba aniga raali ah waya waa kuu soo laabanaya ruqeyo waxaan rabaa inaad la hadashay dadkan ku hor fadhiya u sheegtid adiga iyo maxamed waayihii aa soo qaadateen xilliga adiga darisaad aheedeen idinkoo yaraan baa istaqaaneen laakiin markii xaaladan aad gasheen ma xasuusataa marka adiga maxamed isjeclaateen goor ma yahay 2017 waa gartay waa hal sano waa gartay waa 2 sano ku jirtaan okay gurigaaga kugu yimid idinkoo is yaqaana isku dugsi ahaan jirteen isku xaafad maadaama ahaydeen soo iskuul iyo dugsi masala soo marteen mase waa kala bedelneedeen hay maxaa jawaabo hadalladaad ku dhahda ma xasuusataa maxaa markuu ku imaanayo ku dhawo kale maxamed maadaama soomaalidoo dhan ay aada u danaynayaan sheekadiina jaceylkiinana oo taariikh weyn soomaaliya ku leeyahay waxaan rabaa goormay kugu dhalatay inaad walaasha aqal gasho waridaa noqoto goormay kugu dhalatay markaan aragnay jaceylkeena dhabta ah mafahanta hore waxaa loo laba qof isdhaafsata oo gacal ku jiraa mafahanta markaas aragnay labadeena inuu gacal noogu jiro oo si fiican isku aaminsanahay isku kalsooninahay qofka bilaadanka inuu jaceylkiisa ku kalsoonaado idina maasha allah gabar igu kalsoon waa walaasheeda waxaa dhaho fikrad maka celinaynin muddadii aad la socoteen wax caqabadaa ma la kulanteen tan ka hor muddada wada jirka ahaydeen wax caqabadaa idin soo dhexmara ma jirta ma wax caqaba mana soo dhexmara weligeena yani samaan anaa ka tali jiray samaanteeda ka tali jiray aniga inaa ka xanaajiyo maka tali jirin sooma qofka jacelka haddii aa ka talisi inaa ka xanaajis balse taas aday dhibaato ku watahay sooma qof bilaadan oo maanta oo ku aamintay inaa kula dhiisho laga fiican yaa kula socday oo xaaladaada yaa ka warhaya adiga qoyskaaga iyo qoyska oo ruqiyo arrintiina yaa ka warhaya muddadaa wada socoteen qof ida ogeed ma jirta muddadaa wada soconay qof ay ogeed ma jira laakiin marka arrinta isku xumaatay arrinta gaartay khadbilaha ee gaartay oo meel la saari waayo kadib dad oo na caawiyaan 3 qofood oo garban siiyaan midka hadda dhinta adeerkayga ah iyo mid kale adeerkayga joogo iyo abkoogayga hadda oo camoolaha oo telefoonka ka daawanaysiin garab igu siiyaan aniga oo gabarta in waa la dilaa la dhaho anina waxaa leedahay waa lagu dilaa idin haddaa la dilaa marka adeerayaasheedana garab ay nagu siiyaan maasha allah ayagana aad u wanaagsan yihiin marka gabarta waxaa maasha allah idin waa la weydiiyey jaceylkaagaas ma ku kalsoonta ahaa anigu waa ku kalsoonahay yaa weydiiyey adeerkeedaa weydiiyey marka habarta waxay dhahday aniga qof oo dadkan waxaan rabaa inaad la hadashid oo ayaga ka horjeesato oo yes aniga waxay dhahday qof soomaali oo jareer horta maba na soo galabo ma fahanta jareerna macnaha qof muslim maba ahabo ma fahanta waa xaaraan waxaan rabaa taas dhibaato male waxaa ii sheegtaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa ruqiyo maxaa caqabadaha wada la kulantay muddadii adi iyo maxamed isjeclaadeen oo wada socoteen hay hadda maxamed waa odaygaagii waa saygaagii bal ka waran noloshiina soomaali way idin hor joogtaa inkastoo caqabad aad la kulanteen maanta haddana waxaad moodaan waxay wax ka duwan yihiin maxaa kuu socdo didiilaa rajadaad qabtid noloshii dadaa laga yaabaa inay mushkilad marayaan oo taada laakiin ka bedelaan karto oo dhib badan yahay jaceylka sida la sheego maxaa kula talin lahayd dadweynaha kuma maqlaan dadka maxada qof kasta daacad waxan kala way maxamed
ilaa intee is leedahay waa damaano qaadi kartaa ilaahay ka soko inuu qoyskiina sii jeedo rabitaan intee la eega kugu jira gabadhan walaashaa ah ee kula joogtay kuu soo go'day ilaa heer intee la eega wanaajin kartaa waa is leedahay qoyskiina maasha allah aniga gabar walaasheeda igu soo go'day horta maanta in qof jid ugu tagaamiye waxaan ahay nin rag oo maanta mas-uuliyad qaaday qofka ragga doo mas-uuliyad qaada waxaa loo baahan yahay inuu jacaylkiisa oo usoo go'day inuu mar walba xuduud ku xumbaarsado aniga jacaylkayga waxaan jeclahay ilaa cimrigayga inayba iiga fogaan anina ii soo dhawaata maxaa kuu muuqda marka waxaa ii muuqdo dad walaalihii soomaaliya ii muuqdaan intiin daawo doontaba aanan ka siinin ay wada muuqdaan maasha allah marka sida aniga afahamka ninka waa dareemi kartiin dhibka jira mane waxa aniga dareemi kartiin waaye maasha allah marka hadda dhibaatada taal waxay tahay mis sida aniga aan ku dhaqmi lahayn oo jidka aan ku mari lahayn dadka macnaha maanta dilkaas oo la gaarsaday aniga noola rabay adeerkay aniga noola orday ma fahanti marka aniga noola orday asaa marka loo dilay darteena asaa loo dilay waa qorneed marka waxaan rabaa markaa aragtay dowlad ku garab taagan markaa aragtay culimmadii iyo shacabkii soomaaliyeed ku garab taagan iyo hadalkaaga sida dunidao dhan labadiinaba looga hayo iyo kiiskii dhaca markaa isku fiiriso maxaa is leedahay niyad wanaag maxaad heshay niyad walaal waxaa heli horta wadanka hadduu dowlad leeyahay oo amniga leeyahay mafahanti waa adiga kalsooni balaaran oo ku galayso mafahanti kalsoonida waa kalsooni aad u weyn badan oo maasha allah oo adiga weligaaga abaar haadnayst mafahanti marka maasha allah waa ujeedaa in dowladdan garab noo siiyasi iyo dadkii oo garabna siiyaan ayagana waa ku mahadsan yihiin haddana waxaan rajaynaynaa horta wax walba waxaana iga daran ilma aboonayaal oo ka tagay adeerkeyga oo badan fad laba xaasna oo qabaa marka ilmahaas wax walba naga daran soo maa aniga ninka dhibaatada loo geystay aniga darteena waay maanta ilmahaas oo ka tagay wax walba naga daran fahant maanta dad aniga gabartaan waa dad isku dhima kara waaba oo kala tegi karan laakiin dhibaatada taal waxay tahay ilmahaas aboonayaasha inaan garab la siiyo way waa soomaalida taa waxaan u malaynayaa inay mas-uuliyaddeeda qaadan doonto dad badanna haddayba dhabarka u xigteen siday u xallin lahaayeen ruqayoy wax kugu taagan qalbigaaga oo ka guuxayo oo aada jeclaan lahayd inaad la wadaagto soomaali weyn ma jirta ya waya dadweynahan wax siin doonaa adaa su-aashaas mid lamida ku weydiinaya dadkan soomaaliyeed ee madaxda qarankana ku jiraan iyo dadka magaca leh iyo bulshada ku daawanaya ee dibadda kaala socday kuwa hadda ku hor fadhiya wax kugu taagan oo aada weydiisan lahayd ma jirta adii noloshaada iyo ruqeeyo wax kusee tan familkaaga waad ka hadashay iyo adeerkaa ilmuhu ka tagay qoyskiina wax kuseeya wax kugu taagan oo aada xusanaysa wax cabsanaa waa jiraa laakiin maanta wax igu taagan ma jiro dadkan waxa waa ka codsan maxaa qof bini'aadam walba waa ka codsan karaan wax ii kala baxsan male dadkan waa isku hal waaya aadaa umahadsan tahay waan kugu soo laaban doonaa haddii allah ugu dilo idmo mar kale waxaan jeclahay inaan daawadayaasha aan siiyo kelmado weliba waxaan ku hormari doonaa madaxda qaranka iyo culimada barnaamijka ka qayb galaya haddii allah ugu dilo idmo dalson t v ayaana toos nagala socotaan daawadayaal barnaamijkan waa la kulanka lamaanaha waa madal furan waxaan ku eegi doonaa waayihii iyo taariikhdii ay soo mareen maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo sidoo kale ruqiye cabdullaahi maxamed oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho aqalgalkoodana si kale saameyn weyn u yeeshay oo aada loo hadalhayay waxaan ku bilaabayaa oo aan jeclahay microfoonka loo dhiibo haddii allah ugu dilo xildhibaan professor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane xildhibaan dalson t v kusoo dhawow waxaa goobjoog u tahay oo hortaada fadhiya maxamed iyo ruqiyo oo marar badan ka hadashay waxaan rabaa inaad laba noocba ka hadasho marka wixii tala ah iyo wixii dareenaaba bismillah marka ugu horeysa dalson t v waana idin mahadcelinaynaa marka xigana waxaan guud ahaan si wadajir wada salaamayaa
odayaasha qiimaha leh iyo dhalinyarada barnaamijkan aada ugu magacdarteen kulanka lamaanaha qarni oo ugu horeeyay midigteyda hadda culimaadudiinkeena ragga ugu caansan sheekh cali jiis odayaasheenna hogaamiyaasha dhaqanka islamarkaana dhinacna culimada runtii qeyb uu ka yahay sheekh cabdullah ugaas maxamed weli haddaan sii wado midigta dhinacaas ambassador waxaan rabaa inaad microphone ka dhaweysato si dadku ku ambassador ogliyo saaxiibkeyga runtii hal iyo jeer u taagan baraarujinta iyo ka dhiidhinta waxyaabaha dadka soomaalida had iyo jeer soo food saara oo dhacdooyinkii ma dadka soomaaliyeed barmadow ku noqotay intaanu soo gelin golaha shacabka uu qaylada uu bilaabay tiimkiisii qayladhaan ay la magac baxeen oo maanta isagana golaha shacabka maanta aan ka wada tirsannahay shire oo guddiga maanta si toos ah baarlamanka in looga doodo amuurihii dhacayna sabab uu ahaa raggii keenay maarta ajendahaasi runtii ragga kale ee madaxtooyada ka socda daaxiyo iyo cabdinuur oo bahda warfaafinta u qaabilsan madaxtooyada sida aada wada dhantiin runtii ama miidiyaha ama sharafta kale lagu casuumay salaanta islaamka idinka iyo lamaanayaasha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mar kale runtii dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan isbuucii aan soo dhaafnay dhacdooyinkii isdabajooga ah yani xanuun iyo murugo iyo runtii waxa dadka soomaaliyeed oo aada uga gurteen ayaa dhacay si kastaba haloo maartay kala qaado wixii markaa dhacay ama haddii gabar yaroo 9 jir ay ahayd oo bas iyadoo saaran xabado oo iyada tuurtuur ah ay ku dhimatay haddii tukala iyadoo jaamacadda dhiganaysa oo loogu galay oo iyadana kursigii iyo miiskii iyada ay wax ku baranaysay lagu dilay haddii sidoo kale nin isagana gabadh iyo isagana lagu aaminay mas-uuliyaddeeda saarnayd ee la yiri intuu ku carooday ayuu jarjaray ku kale isagoo sii socdaa isagana gaariga daba tagay oo la yiri oo dhalinyaro ah yacni dhegaheenna waxaan u ranay qaraxii la sheegi jiray xataa dhacdooyin aada uga xanuun badan qaabkay ku dhacayeen ayay nagu ahayd mid muruga reebtay balse murugadaas iyo dhacdooyinkaas tii ugu hadalhayda badnayd waxay ahayd tii marxuum axmed mukhtaar saalax oo dowla ku magac dheeraa oo ay gacmo ka gardaran ay u dileen sabab labada maanta horteedna fadhida oo iscaashaqay oo isjeclaaday diinta islaamka sida ay qabto dariiqii saxdaha u maray iyagoo rabitaankooda waalidkii mudnaa inuu bixiyana sidii soomaali dhaqan ay u ahayd ayagoo sameeyey ay noqotay inuu victim ama daxiya ama uu ku noqdo ninkii gacmahaasi sida maarta xaqdarada ay markaa u salfadeen balse xanuunkaas dadka soomaaliyeed siday ula qaybsadeen ayaa wax weliba waxay ahayd dareenkaas mid aada iyo aad wax uga bedelay macal dadkii ayaga markaa ayaga ahel ahaan ay ka soo jeedeen waayo aniga marka xildhibaan soomaaliyeed aan ahay oo guud ahaan qaranka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan shacabkiisa oo ay matalaadeyda maartay caamatan ay ku tahay haddana si gaar ah halka xildhibaan marka nidaamkan ilaahay xaalkiisa uu ogyahay ee waddanka uu soo
dabaalay awood qaybsigiisa uu maaragtay matalaadiisa golaha shacabka ayaan ahaa sida reerka wax ay u dhaceen iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu jawaabeen mar waliba qiimaha aniga aan dareemay ayaa waxay ahayd ninkii wuxuu ku soo baxay dhibkii asaga gaaray ka sokow nin Soomaali bizaad maxay ka qabtaa qof la dul oo si baadil ah gacan ka gardaran noocan oo kale markay ku runtii jawaabtii bixiyeen dadka Soomaaliyeed mid la ilaawi kara maaha maalintii aaskiisa sidii maartay loo galbiyey yahuudo Falastiin dishay xataa saas loo maartay oo ayadoo Allahu Akbar ta laga bilaabay maxaa la dhihi jiray isbitaal Digfer ilaa qabuuraha barakaan lagu geeyay wax ciyaar ama ay ahayn taas waxay damqashadii ay qabeen qoyska iyo intii markaa marka ay la noqotay iyada ay xageeda dhibka uga dhacay taa micnaheedu ma aha dadka Soomaaliyeed oo dhan inay wada takoorayaan qoyska uu ka soo jeedo Axmed takoorkaas hadduu xun yahay iyo haddii dhibka dhacay uu ahaa mid islaamnimo ka baxsan mid Soomaali ka baxsan wuxuu khaas ku yahay kuwii baangadaha watay shidaalkana watay iyo kibriidka tii wadatay wax dhaafsiisan oo Soomaali kale wax uga jiro ma jirto anaga ma taagni ahdigii nin hundi iyo bulaala ama hawdka inta isagoo geel raacay lagu dilo number 4 looga aarsanay nin iska fadhiyo shaah cabay ma gartay taa dhaqanka ay anaga Soomaalida ee la isku wada yaqaan bari ma aha hatta diyaar uma nihin in lagu aflagaadeeyo hatta qoys Soomaaliyeed liajli dadkaas shanta ee lagu tilmaamayo dambi ay galeen darteed in kale oo iyaga xigaal u ah oo ka xumaaday soo tacsiyay oo meel waliba jooga ka qaylinayo oo maxkamad hala saar dhahay ayaan ognahay dawladda ay ku jiraan shacbiga qaybiis kala duwan ay ku jiraan mar haddii marka ay u istaageen dadkii Soomaaliyeed oo dhan oo culimadii maanta ee ayada ay qaylinayso oo runtii miidiyihii kulli laga wada qaylinayo dadkii Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda laga cambaareynayo dhammaan intii wax garatay ee wax fahamtay damiirka lahayd oo dhan ka wada damqanayso annaga waxaan u maleynayaa meesha wixii cugdad la qaadi lahaa meeshay ku dhamaatay waxaan rajaynaynaa hadda iyo wixii ka dambeeyo inaan ka fakarno sidii aan u badbaadin lahayn labadan lamaane ee abriyaada ah ee ayagoo weli curdan ah dhacdadan ee mashaakilka ka hor yimid iyo agoontii laga tagay taana waan ku faraxsanahay sida dawladda ay uga jawaabayso oo durba ma aragtay duqi magaalada oo gobernatorihii isagoo hogaaminaya uu tagay aan daawanaynay axsaabtii siyaasadeed oo ayagana sidaas oo kale ay socod ay bilaabeen oo aan rajaynayno madaxda sare ee qarankana inay iyada dariiqa ay ku soo jirto oo golaha shacabka wixii dhacay ee asaga uu u saaray guddi ee saaxiibkayga Cabdishire iyo guddiga kale ee maartay oo iyagana ka mid ah bulshada iyo maxaa la oran jiray amniga iyo xuquuqul insaanka ma gartay intaba marka aqalka sare oo inta isagana ma aragtay soo xidhiidhanayo waxaan aad marka aan anaga ugu faraxsanahay inkastoo murugo ay dhacday ma gartay laakiin wax naga meeyri karo dadka Soomaaliyeed haddaan si guud ah u matalayno iyo si gaar ah haddaan constituency-ga u matalayo ayaa waxaan u jeedaa caawa farxadii iyadana halkeeda ayadoo ka sii socoto inay martina gelisay caawa Dalsan TV oo aan labadii mataano oo ugu horeeyay ama aan iraado lamaane
ee hortayda soo fariista oo jacaylkooda laga wareysanayo taasna waxay noo tahay guul gabadhan si gaar ah ayaan uga mahad celinayaa kuna ammaanayaa geesinimada ay muujisay jacaylkeedana ayada ay u gashay shahiid ma gartay inay iyada ay xataa haddii ay nafteeda u go'ayso inay dhinaceeda maartay mar weliba ay ku hayso ninkay ifka ka xulatay marka gabagabadii iyo gunaanadkii caawoo kale marka waxay ku fiicnaan lahayd almiina in la xusuusiyo maartay saaxiibadayda iyo abwaanadeeda iyo abwaa joogaane haddii uu xuseen jiray mulyanaha jawintiri il inay u jiifaan jaahil muxuu ka ogyahay sheekh cali wajiis inaad u dhiibtid oo bahda culimada soomaaliyeed ka mid ah jeclaha inaad fursaddan ummadda soomaaliyeedba uga sharaxday diiniyan iyo wixii talooyin oo ka shaq ahaan usoo jeedin lahayd waa dad dhallinyaro ah duruufo badan soo maray haddana maraya marka noloshooda iyo wixii aad waanaa siin lahayd sheekh cali wajiis soo dhawo بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه runtii caawa marna waa tiraaysannahay marna waa faraxsannahay marka horese waxaan aad ugu mahad celinaynaa dalsan t v iyo idaacadda intaba mas-uuliyiinta dadaalka bilowgii ilaa dhammaadkii aad arrintan geliseen haddana caawa aad iskoorka ku jibiseen inaad lamaanayaashii aad soo fadhiisisiin oo ummadda soomaliya meel kasta joogta ay toos yani xataa aragtidooda anaga aad aan u faraxsannahay caawa inaan aragno iyagoo nabad qaba oo saa u faraxsan qoslaya wax weyn ay noo tahay marka intaa markii laga soo tago taas oo runtii farxad dhinaca kaleetana marka aan axmed dowle maarata aan xasuusanno iyo dhibka gaaray runtii murugo weyn ayaan haddana dareemaynaa iyo xanuun aad u weyn oo aad u maarata faajic ah waxaan jeclahay erayadayda inaan 3 qodob kusoo koobo qodobka koowaad horta waxa waaye diintu maxay ka qabtaa haybsooc dad in la yiraahdo nama geeyaan isma geeyaan ma guursan karno nooma bannaana waxa erayada soomaalidu isu taqaano oo kala duwan oo jaahiliga ah diintu maxay ka qabtaa arrintaas iyada waxaa la yiraahdaa waa jaahiliya waa caqiida jaahiliya oo ka hor imaanaysa caqiidadii laa ilaaha illa muxamad rasuulullah ay burburinaysaa waxaa cajiib ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inta uusan dowladda islaamka dhisin oo uusan axkaam soo degin oon saka la waajibin oon xaj la waajibin oon soon la waajibin oon jihaad la waajibin oon ciidan la dhisin oon dowlad la dhisin oon hijra waajibin ayuu wuxuu dagaal ku qaaday caqiidadan haybsooca iyo kala faquuq dadkan kala faquuq 13 sano makal mukarrama uu joogay umrigiisa dhan ma walaatay ku sano ay ogtay marka 23 sano 23 sano 10 sano dowladda dhan dhisay 13 sano caqiidadan la diray tan ka dareed sababtu waxa waaye dadka ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha الناس inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uuban qabla ta'arafu إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني ددوا إلى يا أيها الناس حتى بني آدم كون دم الله الله يا مسلمين كل الله ما بني آدم كإلهي وحكر قيس واحدة أو أبيه يكون أترسل أو احترام يكرام إسكوله حتى عقيدة هذيك الدوانته مركا يا أيها الناس وحتى نساء حتى وحي مسلمين يكون مسلمين كل سوق لها خضابك وخضاب عالمي وضغطنا كالحياة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وحان ذكاء ورنوه إلى الله سبحانه وتعالى هل هويني وآدم يا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وحال إذا كان الشعوب يا قبائل سبرتين من كانوا يويها وغير حبل من كانوا يويها وغير حبل بس انت سواء حكمة قبائل كلا سجارة شعوب كلا سجارة شعب كانوا يويها شعب الصومال الشعب الإريتري الشعب الجيبوتي الشعب المصري شعب كانوا شعب هاني الله برتو قبائل كانوا واكسيهم شعب كل حجران إلى غير حبل لكن حق كرامة يا حق النسبة يا حق شرفته يا حق استقدرنته محل وحري قبيل لكم حري إن أكرمكم عند الله أتقاكم وحين يكون كرامة بدن كن يكون عبس بدن إلهي يكون حرن يكون أخلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث كأجر حويل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذين ما قفت أخلاق ديسة يدبع ديسة يدين تيس رالكتين وقورية وحان آد أقف أحسن هاي ويلكينا وناكسن runtii dhinac kastaba u dhisan oo horteena fadhiyo dhalinyarada ah iyo gabadha isagna marwadiisa ah oo gabarteeda adeerka aan ahanugu oo ku faraxsanahay sidiga inuu yahay aadaan ugu faraxsanahay runtii marka in ay sidii lagu yaqiinay jacaylka ilaahay subxaanahu wa tacaala ay abuuray in isticlaadaan waa dabiici bal guurkaaba ujeedadiisu ay taasi qur-aanka inoogu sheegay alla wuxuu yidhi wajacala baynakum mawaddatan wa raxma waxaa dhexdiina la dhigay halgacaltooya iyo isnaxariisasho
هذا نحرستي جعلك وأنا قم غضام حتى مارتي لو العدين توضع يمركز تاريخ ذاك الله يعني وأنا أعرف يعني بيس كجرو كل سنة هذا محبة يجعله كل سنة هاي دينتنا الله يستوصل أنا مدري يقول لقيه وحكر لنا وجرام رزق إلهي ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذو إني ما ضقف الأخلاق ذي سيدين سرقتي هاللو قولي ما لقوا محرن قبيل لقوا محرن نسب لقوا محرن نسب أبي هيبة يبقى من دين تسع الله دي وأنا مسلم وأنت ساكو في النسيدي صار مثلا marka horta taas waxaan jeclaa inaan iftiimiyo waa masalada koobaad waa xagga diinka waxa dhacay iyo waxa Soomaali dhex yaala annaga waxaan aragnaa munaasabadan horta oo Maxamed iyo Ruqiya inay Soomaali sida adinku cinwaanka siiseen taariikh cusub beej cusub inay u furayso waxaan kala rabaa Soomaali inaan xasuusiyo saddex liban dalax u sheegay hayb sooc iyo in la isliid horta mar hore ka dhamaatay ilbaxnimadii iyo islaamnimadii yaa tuuray annaga maxaan ku iraadaa aniga hadda iyo xilwaanka suuqaysan isku meelan ka dhalnay isku gobolan ka wada nimay soo dhaxan ka wada nimay waxaan bilowna 100 sano ka hor hawshaas waa la soo dhalay waa la isku guursaday waa la isku xijraa quraafaadkan meel uu noqday inaan inaan baarno waa isaga baaxitheen oo khabiir ha baaro meesha wali wax ka dambeeyaan laakiin anagu reer koonfur hadaan reer banaadir hadaan reer shabeeloyn hadaan cudurkan 100 sano ka hor ka guurnaba markaan taas kastoo hadana marka uma jeedo marka reer mudug iyo waxaas ku dambeeya kama wada yaan la qabsanin Soomaali waa ka wada guurtay Soomaali waa ka baxday marka haday saas tahay marka horta mas'aladaas meesha ka baxday mas'alada labaad ee sheegay marka mas'alada labaad ee sheegay waxa waaye dadka la dulmi jiray jaahiliga ah markaad baartid oo si dhab u baartid oo Soomaalidu ay yaani dulmi jirtay oo la dhihi jiray wax laga nasabka wax lagu duri jiray boqol markaad baartid waa dadka ilbaxnimada iyo horumarka mujtamacaad ku talaabsadeen aasaaska u ah waa مثلا markaan ka soo qaadano walaalaheen dadka hadda uu Maxamed Yare oo ka soo jeedo wiilkaygu waa dadka wax soo saarka Soomaaliya dhaqaalaha adduunkan wax lagu maro dhaqaalo arteen jeynay Mareykan adduunka ugu dhaqaalo badan waxa la isku riixaa inaa ka horeeyo dhaqaalo waxa waaye hal qof oo qoyskaas oo tugsay wiilkiin ma aragteen arkimaysin haddana waa dad wada shaqaysta wada nool wada qurux badan wada caafimaad badan dhinac kastaba ka horeeya marka waxa waaye waa dadka la rabay marka in niyada loo dhiso laga beerto loo beero la isdhex galo si horumarka iyo wax soo saarka iyo tacabka iyo kartida iyo ay ku yani horumarka Soomaaliya wada gaarto laakiin waxa la yaab la dadkii shaqaysanay wax soo saarayna waa xogo farta lagu godaya hadduu birta waxaynaay haddii uu sameeynayo alaabta kale hadduu farshaxan yahay hadduu alaab dhinac kastoo shaqada u yaqaano hadduu beeri tacbaayo kuwii ilaahay xaalkooda og yahay wada maartay waa kuwada jarnaay oo aan beeraha u dhaqaaqayn oo bar soo saarin wax soo saarayna meeshaas ay faan la fadhiyaan iyo macna la'aan marka waxaan qodobkaasna waa qodob aan dhihi karo xataa dib u dhac dhaqaalaha nagu dhacay iyo burburka dowladnimada waxaa ka mid ah isfaquuqaas asaas ah qodobka ugu dambeeya oo idilka ah waxa waaye maanta horta dowladda noo dhisan saad ogtiin oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo madaxka yahay waa dowlad shacabka ka soo baxay waa shacab dad awalba u soo sharaxay markay imaanayeen inay u danqadaan shacabka iyo dadka iska wada dabageeyaan oo dadkan la mideeyo oo bal xoogo haddii wax laga qabay oo qabaa'il isku duulduulay wax gab dhalceen laanna waa dad aan waxaan oo dhanso madaxweyne shaqo reer saasay ahaayeen iyaga laftooda oo dad saas oo aqoon-yahan oo active wax badan soo kordhay baahan marka waxaan qabaa marka marxaladan arrintan inay dhacdana dhinacay munaasabo ka tahay oo inkastoo marxuumkaas intaan ka murugaysanna waa xilligii laga gudbi lahay cuqdadaha jira la dhamayn lahay waxaan lagu muujin karaa sida hadda madaxda qaranka la sheegay u bilaabeen in horta laga bilaabo labada iyo ilmihii agoontahay oo Axmed Dawle ka tagay in la kafaalo qaado 100% nolol abuur loo sameeyo fiican annaga culimada hadaan hay'adda culimada si Sheekh Bashir ka maqlayseen go'aanan ka gaarnay madaxda qarankan rabnaa kaliya maadaama qaranka uu hogaamiyeen in ay kala tashano annaga waxaan rabnaa inaan soo jeedino in akoon loo furo gaar ah dadkan horumarkooda dawlad iyo shacab iyo Soomaali meel kasta joogto sida ilmahaas guri fiican loogu dhisi lahaa mashaariic loogu sameyn lahaa shirkado ugu fiican lacag loogu diri lahaa dadkan sida horumar loogu sameyn lahaa in taariikhda ay ku galaan oo la yiraahdo sida isugu dhabar adeegan iyo isu doorteen isu jeclaadeen horumar ay gaareen Soomaalida ay u furaan bal waxaan ku sii dirlaan ku gabagabeynaya in la abuuro in bilaha soo socda 100 qofood oo gabdho iyo wiilal ah sida hadda ma Cabdiraxmaan iyo Qoyo ay u bilaabeen ay kaligood jihaadeen dawladda iyo shacabku ay ku wada gudaha dibadda la abaabilo in xaflada waaweyn oo madaxweynuhu uu fadhiyo asaga odayga qaranka ah oo aabi Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta kale qarankuba in la isugu guuriyo la jilo oo laga heeso nimanka hal abuurayaasha oo dhinacyada iga fadhiyaan iyo suugaanta loo baahnaa ay ka jeediyaan culimadan iyo muxaadarooyinka lagu baahnaa ka jeediso halkaasna waxyaabihii cuqdadaha hayo jiray oo maartay Soomaali jaahiliga ku riday lagu aaso iyadoo waliba aan rajaynayo aabihii iyo hooyihii ilmahan waalidka u ahayna
wixii shaydaanku uu dardara iyo wixii guul gaaray oo iyagu horumar sameeyey runtii aaba cabdulaahi maxamed wuxuu mudan yahay intaaj loo saaro maxaa yeelay caadadaas uu la dagaalamay wiilkeenu waa noo sheegay meedihii la marsiiyey gabadhaas wiilkaas waa isku ogaa walax yaraa uun marasti ka dhacay iyo dumarkii ayadana waa la gudbi doonaa waalid talaxumo ku dhacday waa iyaga laftooda oo marxaladdan waa marxaladdii leescafin lahaa oo waalid waa la fahmi karaa ilma labadoodba waalid bay u tahay duqdaas la sheegaya maamada ah marka hadda ilmo waalid maanta ka argoosanaya ama cuqdad ka qaba ma jiraan waalidku wax ku sameeya waa sabraysaa laakiin waxaa muhiima in la dilo caadadan jaahiliga waxaa muhiima in la mideeyo ummadda soomaaliyeed waxaa muhiima cadaaladda in la gaaro oo sharciga laftiisa dadka la tuso inuu waajib ay tahay in sharciga dadka lagu qaadayo waxaan kaloo kusoo gabagabeynayaa dhiigga axmed dowle waa dhiig soomaaliya dhan ka daatay soomaaliya dhan buu ku daatay waxaa la rabaa maxaa yeelay qofkan dagaal iyo muran kama dhalan xoolo laguma haysan xataa jufa la dirsanaan ma ahan caado jaahiliya oo ay tahay in laga takhalluso ayuu ilaahay sabab uga dhigay inuu u dhinto oo si qalada loogu dilay marka waxaan leeyahay dhiiggaas isaga ahna dadkii iska lahay oo ahalka ahay ayaa u talin doona oo iyaga iskale dhiigooda inay ama qaataan ama ay dii qaataan ama ay cafistaan iyagaa go-aan gaari doona qof dhihi karta ma jirto laakiin dadka siyaasi ahaan buunbuuninaya ama sida hadda xildhibaanku u daaweeyey ka dhigaya laba jifo isdiidan ama laba qabiilo wax isu diidan ama isyasaaya meesha kuma jirto soomaali waa walaalo boqolaal sano hor isguursan jirto isguursanaysaa laakiin khalad ka dhacay dad gaara oo weliba dad waalida laakiin qaldan iyo waxyaabo soo gaaray ku dhaqmay ayaa ilmahoodii dadkii xaqa ayay xadgudub ku sameeyeen si gaar ayaa loo xun doonaa oday maxamed cabdullaahi maadaama aabbihii qoyska isku xiraya uu yahay oo duqdana ay xaaskiisa tahay gabadha wiilkuna ilmihiisa ay yihiin iyo qaranka soomaaliyeed iyo inta kale khusaysa ayaana si fiican uga fadhiisan doona insha allah meel isku soo gabagabi doona waa mahadsantihin aad iyo aad ayuu mahadsanyahay sheekh cali wakiis oo culimada soomaali ka mid ah maxamed xuseen oo dalsan t v ka tirsan mikrofonada ayaan kaa codsanaya inaad madaxda ugu geysid meesha ay joogaan waxaan siin doonaa xildhibaan cabdisalaadiinta maxamuli waa siin doonaa haddii allah ugu dilo idmo waxaan rabaa inaan mikrofoonka markaan aad ku wareejisaan dalsan bahda idila joogta xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaana kusoo dhawow telefishinka dalsan madal furan ama la kulanka labaanaha qarniga maxamed iyo ruqiyo barnaamij toos ay ka qayb galayaan aad joogtaa oo marti kuhii dunidoo dhanna lagaa daawanayo marka arrintan iyo wixii wacyigelintaada bismi illaahi raxmaani raxiim awalan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogta iyo xaalad kastay ku sugan tahay intaa kadib waxaan halkan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaystoon uga mahad celiyo tv-ga dalsan oo suurtogeliya barnaamijkan taariikhda hore u dhicin in ay caawa ummadda soomaaliyeed cidnaha u soo bandhigaan dalsan warbaahinteeda 6 sano ka hor baan isbaranay oo berigii dalkan ku soo laabtay marka waxaan ku aqaanaa wanaag iyo firfircooni marka waxaan leeyahay cadaaladnina ilaahayna ajir waa idinka siina intaa kadib waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafka halkan kasoo qayb gashay oo runtii soomaalida labeenteedii hadday madax noqon lahayd culimaadudiin safiiro wariyayaal iyo saraakiil madaxtooyada ka socotay iyo warbaahinta waxaan leeyahay waa idin salaamaya anigoo qof aan fursadda aan beerdaranayno waqtigu noo kooban yahay intaa kadib anigu ku noqon maayo dib inaan waqti badan u geliyo ma rabo professor dalxa oo aanu arrintan isla wadnaybaa fikirkii odaynimo iyo xildhibaannimo iyo intaba baarlamaankii iyo wixii aan ka soo marnay ka hadlay waxaan jeclaan lahaa inta badan waxaan idhaahdaa dharaariba waayehe oo xilli walba xilliga markaan la joogo wey shaki kuma jiro waxa isku kaaya keena waxay ahayd murugadii iyo dhibkii iyo tacadigii loo geystay walaalkeen marxuumkii axmed mukhtaar saalax ilaahay u naxariisto oo taariikhdiisa halkan laga hadlay aniga waxaan jeclaan lahaa inaan dhanka kale u eegno dhinaca farxadda sida sheekh iyagaan jecelahay sheekh cali wajiis binaha uu sheegay inaanu barnaamijkan arooska ama lamaanahan ruqye iyo maxamed inaanu ku koobno oo aanan gudagelin micnaha tacdiyada dhacay oo dalxa iyo shiiqu sida u sheegay halkan koobno aan ka hadlo qoyskaas anigu intaa ayaan jeclaan lahaa haddaan ku soo boodo runtii in muddo ah ilaa arrintu dhacdayba walaaca waan qabay intii aan stuudiyahan soo gelinna waxaan fursad u helay inaan lamaanaha gaari isla soo raacno meel wada fadhiisano
biyo cabno sheekaysano waxaan intaa indhaindhaynayey oo aan jaleecay dareenkooda iyo siday isku yihiin oo runtii aan aada uga masayr waagayga leekaa oo wax jeclaan jiray fursadaha aynkaasa soo marina aad baan u eegayay mooshin ka dhan ah gudoomiyihii baarlamaanka galmudug horta sideeda mooshin waxaa keena xildhibaan waxaana laga keenaa madaxdaasoo marka hore xildhibaanku ay doortaan midna meesha kuma jirto waxaan isla garanay qodobadaas inay yihiin sharci una baahan in maaragtay uu iska difaaco baarlamaanka eedeyntaas loo soo jeediyey xildhibaanna ma aha uma aqoonsano xildhibaana inay yihiin cali wuxuu ahaa maqaarsaar gudoomiye baarlamaan laakiin wuxuu ka tirsanaa xukuumadduna u shaqayn jiray farxadda iyo quruxda iyo nashaadka iyo wax ka muuqmina intaa waxa dheer sheekooyinkii jacaylka oo minaha cable iyo cantar iyo qays iyo aanu dhegaysan jirnay Hollywood movies-ka aan ku arki jirnay hataa waxaan filayaa mar dhow qolooyinkan Hollywoodku inay codsi soo jeedi doonaan oo dhihi doonaan lamaanaha waxaan rabnaa filim ka diyaarina maxaa yeelay quruxdoodii bay leeyihiin ina waa u soo jabeeno haddii jacaylka minaha iyo waxaan dhan marka waxaan oran doonaa muxuu ahaa maxamed baa wuxuu oran doonaa wuxuu leeyahay weliya dhammaystiru jacaylka barruqiyaay muddaan soo jafayno buuraha u jiirno jeeskeenna allow dhowr mar haddii intii barsoorka qorahay ilaah la yeelaa marka intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay micnaha annaga bulshada soomaaliyeed maxaa nala gudbo taa weeye nuxurku arrinta loo baahaya inaanu waqti aanu gelino waxaan qabaa magaca waxaa aada ii soo jiitay marxuumkii allah u naxariistay axmed dowlo anigu ma aqoon mana ogeyn axmed dowlo waxaa muuqata marka qoyskan qoys dowlo inay yihiin reer axmed dowlo waa qabaa waad qoyskii abuuri lahaa midnimada soomaaliya meesha isku iman lahayd haybsoocan iyo dhibaatadana daashatay ee dagaaladana guurkoodu inuu noqdo mid micnaha suurtogeliya in dagaalada soomaaliya iyo kala qoqobnaantu ay micnaha soo afjiranto marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed waa arrin noo taallo maxaan ka geysan karnaa waxaan isleeyahay waxaan ka geysan karnaa dhibnaguma ah 10,000 oo qof marka kiiba intaa uu bixiyo haddee waxay kafaalo qaadi kartaa dhammaan reer axmed dowlo iyo iyagaba in micnaha ay galaan sida profesorka iyo shiikuba ay u sheegeen marka waxaan qabaa oon leeyahay arrintaa iyada ah waqti ha la geliyo juhdi ha la geliyo ha loo sameeyo hadda sida profesorku uu sheegay odaygii dhalay khayr allah siiyey ruqya oo runtii aqbalay micnaha kuna meheriyey waa u mahad celinaynaa oo dhinaca wanaagsan in laga eegaa wanaagsan arrimahan arrimo yidhaa dhinaca kale waa sida profesorku sheegay ku noqon maayo waxaan dhihi lahaa marka arrinta aanu waqti gelinna marka in mar haddii isqabeen lamaanihi iyagoo yar soomaalida laga rabo marka inay siday gurigu samayn lahaayeen siday u dejin lahaayeen anigu shalay baarlamaanka wanigii soo jeediyo hadde guddiyadii halkaana waa ka salaamaya guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii ajandaha iyadoo aysan noogu jirin markaan subaxii la wadaagna arrinta iyo nuux habdhowraha oo runtii aan isna u mahad celinahay iyo guddiga adeega bulshada arrinta soo curiyey noo ogolaaday halkaan aan ka salaamaya aad baan iyagana micnaha uga mahad celinaya marka waxaan oran lahaa arrintii aanu lahayn la kulanka lamaanaha qarniga aroos qaran in loo sameeyo weli waa qabaa oo ummadda soomaaliyeed ay isugu tagaan aad mar kale waxaan u mahad celinaya tv-ga dalsan oo runtii suurtageliyey barnaamij uniiga oo isagoo kale aan taariikhda dhicin aad baan micnaha maarayaha guud oo xasan gesey aad baan isagana gaar ahaan ugu mahad celinaya wabilahi towfiiq aad waa mahadsan tahay xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dalsan t v ayaad nagala socotaan daawadayaal barnaamijka gaarka ahaa ee la kulanka lamanaha qarniga ayaan ku guda jirnaa gordha waxaan siin doonaa ambasador owliyo iyo sidoo kale
qadarkayo oo baada fanaaniinta magaalada muqdisho ka mid ah iyo weriye ibraahim baafe laakiin waxaan ka hormarinayaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed agaasime waad ka wareysaa mawduucan waad la socotay min bilowga ilaa dhammaadku waad nala joogtay horena waad uga wareysay waxaan rabaa aragtidaada iyo wixii dheeraada oo aad ku dari lahayd khudbadihii la jeediyey iyo taladaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamayaa sheekhayga abwaankayga xildhibaankayga xildhibaan dalaxa dhammaan waxaan idin leeyahay runtii farxad bay noo tahay inaan caawa kala soo qayb galno barnaamijkan gaarka ah ee tv-ga dalsan tv-ga dalsan tv aada loo yaqaanay oo muddo shaqaynaya ma ah laakiin waxaan uga mahad celinayaa muddadii koobnayd ee hadda ay shaqaynayeen oo aan bil iyo laba ka badnayn intaan aniga hadda la socdo saamaynta ay yeesheen iyo sheekooyinka ay bulshada usoo bandhigaan waxaad moodaa inay ku socdaan dariiqa ay ku matalayaan codka shacabka soomaaliyeed ayna kusoo bandhigayaan waxyaabaha bulshada ay markaa danaynaysa ama waxtarka u leh marka labaadna waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii dhacday oo aanan rabin sida abwaan cabdishire xildhibaan cabdishire oo noo sheegaba hadda ku celcelinteeda aan waxba noo taraynin laakiin de muhiimadeedu ay tahay in dadkii dhibaatada gaadhay oo axmed uu ka mid yahay siday cadaalad u heli lahayn in laga shaqeeyo marka saddexaadna waxaan hambalya leeyahay walaashay ruqiya iyo walaalkay axmed maxamed yare waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajeynayaa inuu reerkiinu noqdo reer idibadiisu adag yahay kalsoonidiisu ay xoogan tahay isgarabsigiisa iyo isu damqashadiisu ay badan tahay dadka soomaaliyeed sida idiin garab istaageen waxaan rajeynaynaa insha allah inay jacayl iyo kalgacayl iyo walaaltinimo iyo wanaag idin sii gelin doonto marka ugu dambeysana waxaan leeyahay haybsoocan waa wax muddo dheer soo taxnaa meelaha qaarna laga gudbay welina taagan waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa in axmed dowlo allah u naxariistay axmed mukhtaar uu noqdo albaabkii xiri lahaa haybsooca muddada soo taxnaa ee jiray shaksi dhibaato ku dhacdaa laga yaabaa qurumo dhan ama wadamo dhan inay isu bedeleen xitaa hogaankii iyo dadkii ka talinayay in la tuuray waxaan rajeynayaa insha allahu heeriyada haybsooca ee dadka soomaaliyeed weli ku dambeysa in ilaahay ka tuuro oo albaabkaa naga xiro marka ugu dambeysana waxaan leeyahay culimmada iyo abwaanada iyo dhallinyarada iyo dhammaan warbaahinta mas-uuliyada saaran mas-uuliyad gaar ahaa naga saaran sidii aan u wacyigelin lahayn bulshada soomaaliyeed inay waxaan ka gudubto oo aana dib ugu noqon waxaan kaloo rajeynayaa xildhibaankana golaha shacabka ka dhex sheega wuxuu yidhi aroos qaran ha loo sameeyo waxaan rajeynayaa insha allah anoo ku hadlaya magacii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in lamaanayaashan loo sameyn doono insha allah aroos qaran axmed dowlan inuu heli doono insha allahu barordii qaran oo aan xusi doono una ducayn doono insha allahu dhibaatadii walaalkeen gaaray mar kale iyo mar kale waa mahadsantihiin dadka halkan isugu yimid si ay dhiirigelin u siiyaan lamaanaha halkan caawa hor fadhiya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad ayuu u mahadsan yahay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed iyo kaasi ahaa daawadayaal telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho ayaa nagala socotaan weli waxaan ku guda jirnaa khudbadihii dadka martida ah ee siyaasiyiinta iyadoo aan siin doono daawadayaasha sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa qayb ka ah dadka ku sugan halkan waxaan rabaa in marka mikrofoonka aan ku wareejino ambasador oliin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ambasador telefishinka dalsan kusoo dhawow waxaan rabnaa hadal jeedintaada barnaamijkan leefka u baxaya ee ku saabsan ruqiya iyo maxamed aada iyo aad sharaf bay ii tahay caawa inaan halkan idinkala soo qayb galo farxaddan marna murugada sidii raggii walaalihii ugu horreeyey u sheegeen marka ugu horreysa waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay 6 sano ka hor radio dalsan oo aan ku duceeyey maalintii daahfurkiisa aanan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan arko isagoo telefishin ah inaan caawa joogo horta aad baan farxadda igu tahay weliba agaasimihiisa iyo xasan cali geesay iyo maxamed cajiib iyo dhammaan dhallinyarada ka shaqaynaysa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad abuurteen hal abuurnimadiinna horeyna waa ugu fikeraya haddana waan aragnaa inaad maaragtay qofku waa inuu opportunista yahay mar hadduu wariye yahay marka lamaanihii qarniga iyo kulankii ugu horreeyey inaad keentaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa inaad noqoteen the voice of the voiceless
dadka aan codka lahayn codkooda inaad noqotaan baan rajaynayaa radio dalsan telefishinka dalsan hambalyo markaan walaalayaal ku soo noqdo arrintan dee kolley waxay ila tahay meel cabdi shire iyo dalxo iyo shacali iyo raggii khiyaarta cabdinuur oo afhayeenkii qaranka dhan loo doortay ay iga horreeyeen wax badan kama sheegayo laakiin waxaan rabaa inaan mar labaad idiin faano haddaan nahay kooxda qayladhaan innagu soomaaliya oon baraarugsanayn ayaan waxa weeye shacabka soomaaliyeed ka wacyigelinaynay sidaa uu xuseen ugu diray cabdi shire maalin maalmaha ka mida meel la yidhaha edmonton annagoo marayna ayuu yidhi niyo 4.5 kuma wax ka dhahno waxaa ku jiray erayadeedii waa baaq dadweyneoo waa badbaadadeena 4.5 bulsho hayeelina dowladdii bilaaba waxa beleda ugu wacan barakada u weydaa waa 0.5 bulshada hayeelina tiintiin la beeriyo baxdin weeye nabaroo aan abad bogsoonayn bulshada hayeelina boqolowgu diyadiyo bilic waa kan siban yahe ninna isaga oo bara boqorkay ma uumine baxri shiikh wayskii dadka diinta bari jiray balse qaawadiin daya ma barbaa ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdhan dheer yahay aswaa'il kuwii bilay axmed naaji baaqi bahda qaasin hilowliyo axmed naaji baaqi brofesor dalxoo kale ma barbaa ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdhan dheer yahay waxay ii tahay it is my honor inaanu ku faano civilizationka in anagu dadka qarniga aan uga horreynay oo aan 4.5 ka diidnay hadda cabdi wuu qarinayaa bal ilaahay maqaadiradii inta aysan dhacdadaanu dhicin hees wuxuu qorayay uu armaga uga hadlayo aan xasuustaa oo aan la fadhiyay hoteelka aan ka deganahay maxamar dadku xadaari waxa weeye annagu haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed horta waxa weeye ogaada waxaanu leenahay role model wax la higsadaanu leenahay waxa noo ah diinta islaamka waxa noo ah anaga role model keena discrimination Soomaali lagu ma yaqaano waxa weeye Bilal ibn Ribaah Bilal wuxuu ahaa saxaabadii rasuulka kaleey salaatu wasalaam gabar Quraysh oo inda buluuga ayaa ratay hashi loo soo saaray inta uu wado sida cabdi shire uu leeyahay oo kale ama caawir dhalinyaradaanu yihiin oo kale inta uu hasha wado intuu guriga geenay uu sugilayaa wuu qooraansadaa markaas haba farta dhinac ka qarinta oo sii jeesataa ayadoo milixsanaysu ku geeyay gurigi Bilal baa annaga noo ah diinteeda islaamka innamal mu'minuuna ikhwa walaalaanu nahay marka kale oo la soo tago saqaawadiin yu ahaa saqaawadiin waxa ina shaqweysbu ahaa SYL muhandiskeedu ahaa number 1 ninka fikir kale fiiriya taariikhda ama British Library taga ama Somali Library tago taariikhyahanka fiiriyo waxa weeye waxa marka saqaawdiin laga sheekaynayo waxa la leeyahay wuxuu ka yimid guri qaadiriye wuxuu ahaa ina Sheekh Ways wuxuu ahaa nin waxa weeye xilqa diiniya ku soo barbaaray saqaawdiin iyo Maxamed Naadi waa ogtiin iyo dalxa waa isku walaalo Sheekh Ways isku mid bay ahaayeen marka annaga role model kayagu Soomaali waliga discrimination ma aqoon ninka raba marka maanta inuu waxa weeye waxaan maanta ugu faraxsanahay in la fahmay gabadha hooyadeed qofku waxa weeye ar-rijaalu qawaamuuna cala nisaa mar hadduu aabihii uu siiyey wiilkii waxa weeye waa caadifad individual ah waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed waxa weeye in ay ku qancaan intaas intii culimada diinku yiraahdeen intii walaalaheen yidheen dhinaca kale fiiri waxa weeye waxay ahayd dhacdadan markaan u soo noqdo Maxamed iyo Ruqiyo horta waxaan dhihi lahaa haddii ilaahay wax idin siiyo sidii adeer Axmed ilaahay magaciisa u qaado waxa la yiri Axmed Dawlo Soomaaliya oo dhan qarankii Soomaaliyeed taxsi qaranna waa loo dhigayaa waa madaxtooyadii afayeenkii madaxweynaha weeye waxaan la hadlayaa dawladna waa lagu aasay ayagana waxaan dhihi lahaa haddii wiil dhashana xalana u bixiya curadkiina hadday gabar dhalatana xaawataaka u bixiya haddii ilaahay idmo anigu waxaan arkaa waxbaan arkaa I can see I can feel it I can smell it leadership baa soo baxay waxa dhacdadan maantay Maxamed waa leader waxaan aaminsanahay saqaawdiinkii labaad oo dhashay inuu yahay waxaan aaminsanahay xalanihii labaad inuu yahay iskama lihi gobonimada qofka la fiiriyaa xaawataakana waa fadhida waxa weeye aniga iskama lihi waxaan u leeyahay shay cali waa maasantay waxaan u leeyahay su'aal baa la weydiiyo waxa la yiri labadiina cabdi shiro waxa la labadiina ayaa jacayl bilaabay gobonimadiisa wuxuu yiri anaa bilaabay waa gobonimo waxa kale oo la weydiiyo maxaa dadka codsanaysaa gobonimadu waxay tahay nin waxa weeye nin fadhigaaga ku arki waayo looma sara joogsado waa mahadsan uu yiri waa mahadsantiin biyo waa qanacsanahay miyayna leadership nimo lahayn su'aalaadka wiilka uu ka jawaabayo
gabadhu sidoo kale xishoodkii ayayday bay soo xasuusa maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah marka walaalayaal dhacdadani waa dhacdo iftitaaxul khayr weeye waxaad ogaatiin waddanka haddaanad siyaasad lahayn haddaadan siyaasadda ku jirin waxaad aaminsan tahay waddankan inuu badbaado qabo laakiin tan waa tii aan ku badbaadi lahayn ama rumaysta ama ha rumaysanina 2013 iyo 2014 muqdisho hal sano iyo afar bilood baan joogay 14 bilood baan dhex joogay waxaan aadi jiray xalane walaalaha maxamed iyo kuwa ka mid a xalane kuwa joogaa kicinayo qabiilku kicinayo soomaalida kale waxay uga dhigi jireen cadow markaasaa waxa la dhihi jiray waa baantuu annagay nagu mid yihiin si infeasible ah loo hubayn jiray waxaa la rabaa oo ilowsan yihiin dadkaanu dadkii qarannimada Soomaaliyeed keenay inay yihiin maanta waxa weeye tiiba meesha ka baxaysa waxay ogaadeen walaalaha maanta inta waxa weeye maxamed ku haybta ah oo shucuuban wa qabaa'ila la tacaarafu ah oo kaliya la tacaarufuga kula ah waxay ogaadeen inay Soomaali leeyihiin inay dawlad leeyihiin in la jecel yahay maanta dhacdadaana kullu nafsin daa'iqatul maut وقف والبرملق هو الدبنية لكن أحمد دولة ماشي كل أنت مالك في عن لهاد ماله شهيد لكن وحو كتجي ليجاسي سومالو أي نقطة دونتو ضلحة كسر قلنا شبيه سودانتا وحو وماشي كليه ديمقراطية ما ضاف civilization اللي يراهدو مركي لا تقول السودان وحو مدو يعدان ما كلا له intay madowgii cadaanki dhaafeen bay xataa waxay sameeyaan maalmaha ciidana masaajidada camiraan maalmaha kiristaankana tacaawun akhuuna fi waxay dhaan masiixiinta xataa kiristaan waxay la buuxiyeen kaniisadaha annagu marka waxa weeye maanta tan waxay noqonaysaa bilow barako waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad aan dhaho muutu biqaydikum caradiina la dhinta kuwii walaalaha Soomaaliyeed kala saarayay waxa kale oo rabaa kuwa attention seekerka oo ilaahay ceebtooda asturin oo iyagoo dhan oo xisbi dhana $1,000 la soo shaqo tagay si ay dawladda wax uga sheegaan xaqiiqatan iyagana mawduucan ka hadlayno ku kooban yahay waayahay attention seekerada waa hadalkooda uu jarmaya laakiin waxaan idiin sheegayaa xaqiiqatan arrintan waa midayso shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaana ku faraxsanahay oo ugu hambalyeynaya shacabka Soomaaliyeed sida ay uga wada guntadeen waxaan idin leeyahay lamaanaha maanta in hor joogo waad nasiib badan tihiin waa xildhibaan waa Cabdinuur hadalka leedin kula hadlayaa waa wada dikreeto arooskiina iyo adeerba insha Allah inaadna ka walwalin baan rajaynaynaa waxaan halkaan uga mahad celinayaa Joobkay jaamacaddii Joobkay isla maalintii waxa lagu aruuriyay Sheekh Cali baa nala joogay $5,000 bay aruuriyeen oo lamaanaha kaliya ku saabsan Soomaali waa dad faxal ah waa dad gacan furan waa dad wanaagsan waana dad waxa weeye insha Allah biidnillah alkareem cid kasto isleh Soomaali inay kala saarto isku dayeysana waxa weeye biidnillah alkareem waxa weeye ma kala saarmayso isku mid baan nahay isku hal naf baan nahay waana ka gudubnay waxa la yiraahdo bahalkii haday noqoto culimada iyo haday noqoto xildhibaanada iyo haday noqoto mas'uuliyiinta waa u hambalyeeyana idinkana waxaan idin leeyahay aniga maamaayo waxa jirta xamar looga maamaa awr minuu horseed noqonayo maxay albaab irida ka taqaana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantihiin waqtiga waxaa codsanayna daqiiqada noo soo koobtaan weli waxaan u malaynayaa doorka dumarka xitaa uu dhiman yahay may hadlin dumar badan oo martina way nala joogaan madax ayaa sidoo kale qayb ka ah dadka nala fadhiyo haddii Allah uu dalooyno ugaaska ayaa dhaqanka ka mid ah oo nala jooga oo Dalsan TV martiqaa ugaas adigoo soo koobaya maxaad soo jeedinaa bismillah alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله مهدي سكاله ثم وحانوم تلفزيون دلسن سيدا وأمة مولي ماركتي ارتقاء بيي كدب وحلينا يا والله كسوقي قال لنا مفك استوى درجته وكفرديو أولا وحنا هذا اللي يربى ربعين عن كبحيو أبلجس صدقته أروركي كاني أما حسبي صدقته كاني وأنو بهد علينا صدق يران ماله سومالده وحي ترى هذا دتك إلهي بعد دقيقة حسيدا مهمة إن يسوع حسين با مهمة أولينا الله قبل ما هيو أنا أساقبا تاجر الدولة ده نمضح مرتين مركي أنا الله قبلني
taageeray ka ahayd intaasi intaa markaan taas uga gudbo walaalahana aad baan ugu mahad celinayaa intaa markaan ka gudbo wax fara badan ma sii dhahayo oo hadalkii hadda meel ragga iga horreeyey ay mareen hadda hadal tiro moogiye wax fara badani kama furo waxaan rabaa awalan inaan soo dhoweeyo oo walaalaha isguursaday aan u dardaarmoon idhaahdo xaalad adag baad marteen idinku xaalada adagna inay timaadaan laga yaabaa ogaada xaaladda aad soo marteen oo gabadha walaashaa inaad u samirtaan lagaa rabaa adiguna walaalkaa inaad u samirtaan lagaa rabaa cadowgiinaa badan kara dhibkii hadda ku dhacay waalidkiin baa iman kara weli laydin daba taagnaadaa suurtagala waxaa laydinka rabaa saaad maanta isugu xilateen inaad isugu dheganaataan qof dhammaystiran ma jiro qofba meesha uu ka dhiman yahay ka kale inuu ka kabo intaas inaan ku daro waan rabaa waxaa kaloon arrintaa ka sidaa oo annagu 100% odayaashii dhaqanka ee Soomaaliya oo afkooda ku hadlaya arrintaa 1,000 jeer baanu ka xunnahay 100 jeer milyan jeer baanu ka xunnahay waxaan soo dhaweynaynaa guurkan tala bixintaan baan marka wadaa oo rabaa inaan ku daro anoo koobahaya koow arrintaa ayadoo dawladdu ay ballan qaaday way nagu jirtay oo si guud aroos guud in la sameeyo waan ku talinaynaa lambar 2 in la dilo arrintan soo noqnoqotay oo haybsooca oo gabowday oo gaamurtay qorshahaasna ay keenaan culimadu ay keenaan ayaga ehel u ah siday arrintaa u dabargo'i lahayd dawladduna ay hormuud ka noqoto intaasaan ku soo ururin lahaa aad baadna u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka ayaa weli ku guda jirnaa daawade marka waxaan rabaa dhinaca suugaanta inaan eego waxaa nala jooga qadarkay oo fanaaniinta magaalada muqdisho ka mid ah fanaan marka la yidhaahdona waxaa weeye dadku waxbaa ku soo dhacaya inkastoo meelo badan wax ka eego haddana dhinaciisa suugaanta jaceylka qadarkay waa lagu yaqaanaa oo malaynaya waxaa oo ka hadlayna maxaa kaa taabanaya wax ma ka soo marka hore waxaan salaamaya mas-uuliyiinta ugu jira culumoodiinka sidoo kale xagga dowladda sidoo kale shacabka iyo suxufiyiinta dhammaantiinaba raadiyo dalsan marka xigta caawa waa habeen farxad badan horta haddii aan ka qayb qaatay waana habeen aan xusi doono labadan lamaane isdoortay jaceylkooduna kolley aan dhihi karo waa jaceyl hirgale wax laga qaban kara ma laha marka mukhtaar iyo raaqiya markii horeba waa islahaayeenoo magacooda aar iyo aarna way ku jirtay waxaan leeyahay hirgala jaceylkununa hawaaro haddii aan annaga xagga calashaan nahay fanaaniinta mar walba waxaan ka haysnaa jaceylka ama dhanka jilcan waxaana jeclaan lahay sidii hore abwaaniintii fadhiyeen ama mu'alifayaashii ay hore u sheegeen inaan u soo saarno ayaga hees ka tarjumaysa ama macnaha calashaan ficiladaas jira elinays oo dee aan ayagu ugu talagalnay marka waxaan leeyahay dhiirigelin ayaan samayn doonaa insha allah hadduu ilaa jiraan daawadayaal telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka la kulanka lamaha qarniga ayaan ku guda jirnaa xubno madaxa hayaana barnaamijkan oo leef u baxaya qaybka cabdiraxmaan colaad ayaa rabaa markaa inaan siiyo oo ah afhayeenka beelaha gabow mikrofoonka ayaan codsanayaa inaad cabdiraxmaan ku wareejisaan cabdiraxmaan waqtigoona ayaa dad badanna way noo dhiman yihiin wixii marka kuu baxay hadaladii iyo kiisaskan dhacayba horta soo gaabinaan maayo oo ninkii uu saacadaha dheeraa inaan noqdo ayaan xaq u leh magacaygu waa cabdiraxmaan colaad maxamed waxaan ahay guddoomiyaha beeraha la hayb sooco ee wadamada Scandinavianka nooc kasta oo beelaha la hayb sooco oo Soomaalida anigu kala saaray waxaan waa dulam weligeed soo jiray Soomaalidana sidaad waxay aaminsan tahay hal maamaha ay aaminsan tahay kamana foqays maamadaas caado la gooyo cara alay leedahay marka caadada hadday gooyaan dadkan la hayb sooco inay guursadaan cara Allah ku dhacaysa way ka tageen kitaabkii iyo way iloobeen horta aad baan idinku tahniyadeynayaa labadiinan
anaan hadalkana ku dheeraanaynin arrimahan waxaan ka hadlayay ilaa 20 sano ugu dambeeyey safiirka wuxuu sheegay heeskii ahaa 4.5 bulshada yeelina abwaanka waxaan ku kulannay Norway shir weyn oo shir Soomaaliya isagaan si khaas u qabsaday waxaan ir abwaan maxaad uga soo saari weysay kelmadda la yiraahdo 4.5 maxaad murti uga soo saari weysay London markuu ku laabtay ayuu sameeyay safiirkii adigaas aniga dacwadaas iga timid waa fahamsama waan dhibaato weligay ilaa yaraanteedii hiisay runtii aniga ma soo marin laakiin maanta ay soo martay Axmed Duule markii gardarada lagu dilay oo silci loogu talagalay loogu dilay ومن هريت ودنتا سنة يكون 1968 دولتي كعان كلا بس أنا كهر واحد علي نن بيالها جبوية كمية بيالها سومالية ولا يس كمية إن وجبر سياسة كله جورسدي والله سوق بتسوق حوالي الحكاية ومدي أورنا كل حوريتي وأحمر قاتي وعدانا سنك يلا بدي نقول على جرا marka raali ahaw wariye raali ahaw hadda maanta wixii la joogay waa ogahay midda hadda la jooga midda ugu ajarka badan baan ka soo hadlayaa waa fahamsama gabar beelaha sara ah dadka sheegta ah inta wiil minority-ga uu la soo baxsaday sanado ka hor oo wuxuu la yimid tuulo macallin quraan ayaa loola yimid waxa la yiri macallinow labadan qof isoo keenin kaaxi ninkaaxi ka hor ayaa sheeka dhex martay marka gabadhina waa qurxaneed wiilkana waa qurxanaa wuu waraystay gabadhii bay isku cid noqdeen waana macallin dugsi quraan hoogay baay maanta inaan dhalan rogtay waa macallinka dugsiga quraanka marka waxaan dulum socday weeye waaya maanta meesha la joogo meelba meel bay ka daran tahay maanta meelba meel bay ka daran tahay meesha ugu daran waxa weeye maanta oo na haysata ilaahay ha u naxariista marxuumkii caawin waxaa balooba in gacan ka gardaran ay dishay oo jannada ku jiro midda aan hadda rabno inaan badbaadina marka waxay tahay gabadhaan rajo ma ka rabnaa mustaqbal ma ka rabnaa islaanta xiran gabadhaan soo ma aysa dhalin caloosheeda soo lagama soo saarin sidii loo raadin lahaa fakar raqaba على قبل اسم الحياة فكر رقبة على قبل اسم الحياة سيسو مالوين ودن أورادين لي انت كلا وصار راعي محكمة دوحي كده يسيدي جرتا لكن قبل ناس هو يده ده شيء يده ماذا هذا يفضل جاد أي نكاس جرير كأ أي كدورتي قبل ناس فضل هذا يفضل النبي يفضل أولياء هلو عفيف انت أصلا قعد سنة يا si aysan iyadoo gurigeeda ku jirta hooyadeedoo la dilay oo la deldelay aysan soo xasuusanin mar walba intaasaan ka codsanayaa madaxda sharafta leh waa mahadsantahay waa kumaad celin waqtiga waa ku siinaynaa aad u mahadsantahay dalson TV ayaa nagala socotaan daawadayaal afayeenka maamulka gobolka Banaadir Jineer Saalax ayaa markaa la jooga mudane dalson TV ku soo dhaw gobolka Banaadir gudoomiyaha ka socda booqday dawladdiina matalaya adiga iyo hadal jeedintaada marka hore waxaan jeclahay inaan hambalyo dhaho lamaanaha isdoortay Ruqiya iyo Maxamed runtii caawa inaan ku sugnaado horudhaca xafladda lagu magac daray arooska qarniga runtii caawa waxaan dhihi karnaa waa horudhaci arooska qarniga cilaamiyeen xildhibaanada baarlamaanka idinkana sharaf ay idin tahay inay ka soo qayb galaan kulankan madaxdii isugu jirta xildhibaanadii culimada diintii iyo waliba odayaashii dhaqanka baxdii saxaafadda runtii waxaa aad loogu xumaadaa in caawo kale aan dib ugu laabano waxyaabihii hore u dhacay oo runtii laga hadlay dad badanna ay ka dhiidhiyeen waxay wanaagsan tahay in caawa aan idinla qaadano farxad iyo wanaag murugada aan idinka reebno aan idin xasuusino waxyaabaha mustaqbalka idin soo wajahaya
iyo sida aad u dhowri laheedeen una daadihin laheedeen jacaylka aad isku doorateen mar kale waxaan idin leenahay hambalyo maamulka gobolka banaadir sidaad hore ula socotaanba waxay u booqdeen ehelkii way usoo tacsiyeeyeen mar kalena caawa anigoo ka wakiila gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yariiso waxaan mar kale idin leedahay hambalyo arooskiina ha noqdo kii lagu waara ubad khayr qaba aad ku heshaan cimrigiinana aad isku raagtaan maamulku wuxuu hore u ballan qaaday in qorshayaal u degsan tahay oo ah dhankii aroosyaasha haddii ahaan lahayn lamaanaha is doortay iyo dhankii agoontii laga geeriyooday oo walaalkeen axmed doole uu ka geeriyooday iyagana qorshe ay ka jiraan sidii gacan loo qaban lahaa loona kafaala qaadi lahaa caruurtii agoonta ahayd qorshahaasna wuu socoyaa runtii ballanqaadkaasna wuxuu noqon doonaa midaan ka dhabeeno waana sugaynaa runtii ballanqaadka walaalkeen cabdinuur asigana uu ka dhawaajiyey oo madaxtooyada ka socda in aan ka qayb galno arooskiina mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo aad waa mahadsan tahay faanka maamulka gobolka banaadir iyo daawadayaal telefishinka dalsan ayaa nala socota qayb ugu dambeeyay barnaamijka soo gaarnay dhinaca dumarkaasi doonaa laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo ibraahim cumar baafo oo ka mid ah bahda warbaahinta ama saxafiyiinta magaalada muqdisho ibraahim waxaan u malaynayaa dhacdooyinkan oo kale aad uga hadashaan warbaahintii بسم الله الرحمن الرحيم علمada xildhibaanada madaxda iyo dadweynaha kaleba maxamed ruqiyo iyo barnaamijka wariyaha daadiinaya dhamaantiin waa idin salaamaya waxaan jeclahay inaan ku furfurto hadalkayga abwaan hadraawi kulan aan kala qayb galay London 2007 inaydan jeclahay ayaa wuxuu aad uga hadlay dadka la heeb sooco kaalinta ay bulshada kaga jiraan iyo waliba sida loo heeb sooco tusaale waxa uu sheegay in isagu isku haysto inuu yahay laandheere ayaa wuxuu u yimid aaliyay dadka la heeb sooco oo meel ku haysto meeran kabaha lagu talo marka kab ka go'saneed buu u dhiibay markaasuu yiri kabtan iito meel bay ka go'saneed marka ninkii baa wuxuu ku yiri soo laabo hal sac kadib maxaa dhacay kaasuu yiri masaabiirtiiba hadda qoyo bakeeriyan ku rido intay ay qoyayaan soo laabo uu isaga tagay markii dambe uu soo laabtay kabtii oo diyaarsan buu siiyay marka wuxuu leeyahay ninka garan waayay masaabiirba qoyaysa kabta lagu dhijinaya waa qofkaas wuxuu ka sheegayaa inuu yahay qof isaga ka liita hadraawi ayaa arrintaas aan maaragtay ka dhageystay isagoo London ka sheegaya tan kale runtii ruqiyo iyo maxamed aad baan ugu hambaleynayaa ruqiyo waa gabar geesiyad ah oo runtii aad geesiyad u ah waliba caawa ku dhiiratayna soo hor fadhiisato malaayiin qof oo TV ka daawanaysa iyo dhowrka halkan aan ku fadhino waa yeeriyeen gabdhaha iyada oo kala ah sidan ugu dhabar eega waxaan leeyahay iyada iyo maxamed Allah isku waaro ubad qaar qaban Allah kala siiyo gobolka banaadir iyo dawladda intaba waxaan leenahay kaalinta lixaad ay ka qayb qaateen sidii u taabageli lahaayeen arrintanna way ku mahadsan yihiin waxaan ugu baaqayaa marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay ku joogaan aniga waliba caawa ka wakiila jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Australia in laga qayb qaato sidii gacan weyn loogu geysan lahaa axmed dowl Allah u naxariistay eheladii iyo caruurtii buu ka tagay dabcan waxa maanta gacan u baahan waa dawlo 12 cunug uu ka tagay aabihiisa indhoolka sida uu sheegayba wiilka kaliya ama odayga kaliya u dhaqdhaqaaq reerka buu ahaa saaxiibkay ciyaar jecel uu ku mahadsan yahay inuu arrintan baarlamaanka horgeeyo laakiin waxaan leeyahay ciyaar jecel naftirkiisa inuusan ilaabin xildhibaanada baarlamaanka markii la isku daro labada gole waa 329 haddii min $500 la maanta iska aruuriyaan $164,500 waa reerkaas maanta ku taraysa golaha wasiirada 65 waaye qolo walba hadday maanta mushaarkeeda $100 ilaa $500 sida loo kala weyn yahay la iska gooyo reerkaas axmed dawle waxaan aaminsanahay in guryo iyo nolol fiican iyo mashaariic sida uu Sheekh Cali uu sheegay loogu fulin karo meesha ay ka bilaaban kartaa hoggaanku wuxuu ka bilaawdaa golaha baarlamaanka waa iyaga dadka aan higsanayno waa shacabkana matala ee maanta meesha soo fadhiya tiradoodu waa badan tahay tayadoodu way wanaagsan tahay laakiin arrimahan oo kale waxaan rabnaa in iyagu noo horseedaan jaaliyadaha haddii aan u baaqo qurbaha ku nool oo jaaliyadda Australia ugu horeyso waxaan rajaynaynaa siduu Sheekh Cali uu sheegay account loo furi doono reerkaas in cid walba sidii aan ugu gargaarnay dhacdadii 14 Oktoobar markii ay dhacday waa la ogaa taas maanta waxa noogu mudoon horey looma arag Soomaaliya taariikhda kama dhicin in sidan oo kale qof loo jirdilo la gubo oo basiil lagu shubo runtii waa mid soo martay alxamdulillah wax walba way dhacaan waxa maanta wali naga sii qalbi adag dadkii dhacdadan daraadooda loo sameeyo halkan fadhiya wiilkan adeerku yahay iyo gabadhan uu adeerku yahay isagana ninkii dhinta Allah u naxariistay
waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal waxaan u baahannahay in faamilkaas maanta odagaas camoolaha sheegay inaan cidina u maqneen ceelina u qodneen sidii caawimaad degdega loogu fidin lahaa guryo loogu dhisi lahaa oo caruurtaasna waxbarashadoodii mustaqbalkooda loogu fikri lahaa lamaanaha gobolka banaadir iyo waa lagu filan yahay maanta waa dad cusub oo aan weli aan maxay ahayd caruur dhalin waa dad shaqaysan kara dhalinyaro ah laakiin odaga ilmihii uu ka tagay 12 ahaa taas ayaa aad looga baahan in laga walwalo ama sinti aad mahadsantahay Ibraahim Cumar Qaafo oo ah saxaafadda kamid ah Dalson TV ayaad nagala socotaan daawadayaal barnaamijka kulanka lamaanaha qarniga ayaan ku guda jirnaa Maxamed Cabdiraxmaan Mukhtaar iyo Ruqiya Cabdullaahi Maxamed ayaa noor fadhiya qayb ugu dambeeyay barnaamijkan soo gaarnay Saacadiye Xasan oo dadka nala jooga kamid ah ayaan siinaya markaan bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waxaan jeclaan lahaa halkan inaan uga hambaliyeeyo Ruqiyo iyo maxamed hambalyo wallahi waxaa waaye wax aad samaan uga yeeshatay bulshada Soomaaliyeed haddii aan waxyar ka taawo lahay ina istaagtid si xogaha dad macquulkood waxaan jeclaan lahay waxyar inaan ka taabto anaka dhalinyarada haddaan ahne oo meeshaan hadda joogto ama samaan aniga personally haddaan shaqsiyan aan ka hadlo sida ii taawatay yani waan kusoo jeeday everydayna waxaan fiirinayay update-ka ama sida ay ku dhacday sheekadaanito waxa waaye haddaan bulshadahna waxaa waaye inaan isxasuusino dareenka ay aan hadda markaan discussionkan aan fiirinayay mostly waxaan ku focus garayna waxay ahayd inaan sheekadan more political laga dhigo but runtii waxaa waaye laba dhalinyaraana hor joogto oo dareenkooda aad loo wax weyn samaan weyn ku yeeshatay waa inaan ka qaadanaa waxaan tusaalo oo haddaan nahna dadka Soomaalida oo waxyaalahaaniita qaarkood aan ka hor imaanaa aan ka waajinaa aan accountability waxa la dhahayo aan raats Ruqiyo aad abaayo aan ugu xumahay أبو أدينا هدان يعني وحيان قارواي ما هدان نحن الصومالي ما كان عن إشو عن المهين وقصة بربارين نفانت سكولك أقول شيء that يالهان وحيال وقلد ويعني قفك شخصيا روج ذكرى freedom أيو ليه هاي and نحن رأينا أمهد علي دلسن and platform كان أي سمسة a conversation كانوا هذا الوقت هذا نويو because وقتك إسبدلنا كجرنا سوماليا هدانا هنا in Somalia peace مهليس until individual justice لهلو وحيالان عمل مركز دعان إني يعني لجحد لأولو إماذو أو every conversation لفيريو يعني محو سمان دتك كويشت and I really believe that هدي عن دت سوماليا دعنا ربنا إن كخ إن الكيو and وحيال بدن عن سوما هنا و individual justice إني لهلو so again waxaan idin lahay congratulations and waxaan ogahay daacwada ana ka hadalnay aad u hadalnay inka time mani la siinin dareenkiina kala hadasheen aad ma santahay way hay Dalson TV oo hadda nagala socotaan daawadayaal waa TV-gii soo bilaabay barnaamijkan iyadoo radio iyo TV iyo page-keeda kala ka kooban waqti badan iyo way adag nu way gelisay agaasimaha guud ee Dalson Media Group Xasan Cali Geesi ayaa nala jooga agaasime waxaan rabaa dareenkaaga iyo hawshan sidii ku suurto gashay la wadaag dadkan iyo kuwa ku daawanay bismillaahir rahiim wa salaamantiin marka hore salaamaya lamaanaha qarniga runtii farxad gaar ah ay tahay caawa in studio Dalson aad fadhidaan oo madaxdii qaranka halkan ay ka ballan qaadayso mustaqbalkiini iyo mustaqbalka ahladii runtii dib ka gaaray oo ka wada timaadeen Dalson TV ahaan waxaan ahayn TV ugu horeeyay baahiyay horta warkii ku saabsanaa bilowgii dhacdada kadib waxaan bilaabnay in haddana bulshada dhacdadan ku cusub aan tusnay inta dhacdo cusub oo saameynteeda leh si u sii soconina runtii waxaan sameynay barnaamijyo badan oo ilaa iyo mas'uuliyiintii meesha booqanaysa anaga u ahayn channel Emaran oo ay ku jiraan Sheekh Bashiir
xisbigii wadajir gudoomiyihii gobolka dhammaan dadkii meesha tegey eheladii runtii iyagana nagala shaqeeyey in dadweynaha u baahino barnaamijyadii ku saabsanaa dhacdadan aad baan ugu mahadcelinaa caawa waxaan soo gaarsiinay in lamaanayaashu ay dhiiradaan 2 isbuuc oo ay ku ahaayeen magaalada meelo ka mid ah baxsad oo aanan la aqoon meesha joogeen inaan muuqaalkooda dadka hor keenay ka dhignay inaysan baqaynin aragtidooda muujiyaan jaceylkooda iyo waxa ay soo mareen dadka u sheegaan dadweynaha Soomaaliyeed ay uga mahadceliyaan iyo dalsanba wixii ay la soo mareen iyo waxa maanta ay maaragtay iyaga higsanayaan runtii waxaan isleeyahay wax cusub oo bilowdeen waay dad badan ay fajc ku eedcaaw markii aan casuumeynay oo xildhibaan ay kamid ahaayeen in xataa lamaanayaashu ay joogaan stuudiyaha runtii wax cusub waay oo Soomaaliya ku cusub waxaan rajaynaynaa in ay sii socoto lamaanuhuna waxaan rajaynaynaa baahinta aan sameynay iyo meesha aan geena darteed in xusuus badan ay dalsan ku reebaan iyagana runtii dalsan ay xusuus gaar u noqoto kamana harayna sheekadan ilaa iyo ubadkooda ugu horeeya oo dhashay insha Allah maasantiin هذا ما سنتاي الله سمعت الفكرة درسن حسن على جيسي وحرب جبجبدي إن الصوت جبجبيه وحنقول لعبنا يا محمد يرقيه وأن لا هاي مدح هذا الشيء شعب هاللي علماء الدين هذه هاللي وحي ما هنقد وجدين الهدين يو سجود حفلة دعاء إذا لقبت عرفتي دي أتكلم حشين محمد ما هنقد وجدين إذا ما ضحك على قب الشيء بلنقات كيد اللي نسميه يو مدة الصومالية كده ونسو معاشا وناس قبل شو أنا كورجينا أنا بدعينا ما دد نوجس كم جسدت أو ما دعنا تيجي برامجنا صدق بقعدتي وماشي والله فليس أو والله دقيقتي هذا ما سنت هذا ما سنت وغير يقولني قبل والد ولاله أيها كورف ليه قارنوا كداوانية حالي اللي دت كان وقرب تاجن ويهاي داود يال انتاس ايان جعل هاي ويهاي يا هاي ميكروفون labada kelimo waxa weeye midda koobaad horta waxaan in badan la sheegin waa la yar maray oo sheekh iyo dalxa sheegay gabadha aabaheed wuxuu mudan yahay meediyuhuna in badan ma sheegin Soomaalidu gabadha wuu bixiyey sidii sharcigu u ogolaa buu u bixiyey sharaf iyo karaam buu mudan yahay waxaan idinka codsanayaa arrintaa inaad aad u baahisaan meediyahana idinkaa hormuud barnaamijka uga ah gabadha aabaheed inuu bixiyey sidii sharcigeedu uu ku bixiyey kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga uu raacay uuna ku mahadsan yahay intaa ha lagu celceliyo midda labaad cabdiraxmaan baa i xusuusiyey qoyska dhibku markuu dhaco sulxi baa loo baahan yahay dowladda waxaan ka codsanayaa anoo magaca odayaasha Soomaaliyeed ku hadlaya qoyskaas meel weyn oo xaflad ah inay keenaan hooyadii la keeno ayadoo la dhexdhexaadinaya qoyska gacanta la isu gelinayo ilaa waxaanu doonaynaa labada lamaane inay muxuu ahaa wanaagsanaadaan ilaahay wax fiican kala siiyo reerkii dib u midooba labada dhinacba gabadha ciddoodii iyo wiilka ciddoodiiba inay midoobaan baa la rabaa haddii kale dhaqan ma imanayo dowladda waxaan ugu baaqayaa oo madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul wasaaruhu ku xigo mas'uuliyiinta kale ay ku xigaan reerkaas in la soo hor istaajiyo Soomaali oo dhan ayagoo gacanta la isu geliyay oo dhibkoodii la soo afjaray sida Cabdiraxmaan uu sheegayna hooyadu xabsi kuma sii jiri karto waa wiilka hooyadiis waa gabadha hooyadeed in laga raaco dhanka wanaaga xilligaan oo kale markay taagan tahay wanaag baa loo baahan yahay intaasaan rabaa in badanna waa idin mahadcelinayaa inaan iraahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u maasantaa waayahay waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo agaasimaha dalsan media xasan cali giisay oo aan jecel lahay inuu erayo kale doonayo inuu la wadaago daawadayaasha wax kale maaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo caawa runtii shaqadan aad arkaysaan iskama qabsoomin waa hawl adag oo waqti adagna la soo geliyey
dhammaan bahda darsan ee ka qayb gashay waa u mahadcelinaa si gaar ah 10,000 oo qofooda caawa life ah oo Soomaaliyeed oo daawanaysa waxaa saamaxday shirkadda Hormuud in dadkaas caawana daawadaan waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahadceliyo sida ay uga taxadireen inuusan khadka go'in inuusan internetku uusan khalal ku imaanin runtii si gaar ah ugu mahadcelinaa inay dadka Soomaaliyeed u saamaxeen halka saac bar hawada aan ku jirnay in si saamiya 10,000 oo qof live ay tahay hadda ay daawanayaan barnaamijka oo maasantiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa daawadayaal xildhibaan waan jeclaan lahaa dad badan aan raba inay hadlaan maadaama hadda bad jacayl aad gashay maadaama bad jacayl aad gashay heesaha oo adigoo kale ku habboon in loo tiriyo iyo gabadhaan oo kale marka isugu kiin qiyaaso xoogaa reference yar ma haysataa mise waa lagu xasuusiyaa dusha nabar ha taafsiin ha dagaalin waa gobe hadal doqon ma garataa ku dayin ma yeeshe intaasaan kugula dardaarmin waa dardaaran waayo aad aa umahadsan tahay waxaan jeclaa dadaa gadaal ka hadlayo doonaya inay hadlaan waan jeclaa ayaga laftirkooda waan idin siinaynaa laakiin aad soo koobtaan baa idinka codsanaynaa maadaama waqti nahayo gabadhaan kaa horumarinaya wiilka gabadhaasaan kaa horumarinaya bismillaah caawa farxad ay tahay maadaama lamaano jecel oo isjeclaayeen inay nolosha jecelkooda inay hortaaskiinba waa haweye facebook waxaa kusoo maxamed waxaa kamid dhalinyarta magaalada ugu firfircoon marka ma soo koobi karo baxsanahay leeyahay ruqiya ruqiyo waxaa kaana jecel inaad u adeegtid noqotid mid saygeeda ka dambeyso sidaa usoo dhawa adeegta ka daranaan kaasii rajeynayna waa maasantiin waa maasan tahay wiilkaa gadaale yaa codsanaya inuu hadlo بسم الله الرحمن الرحيم وين سلامي وحن أمهد إلينا دمان بشوين الصوماليات وحن كلو أمهد إلينا بهذا راديو دلسن تلفزيون كا وأرنتا نوتا بجلس عاوة هذه هذا ما سنتين قدام صون لابتو برامجك أو برامجك أو لوي ما دمشق رنتي أنا waxaan arintan aan ku qiyaasay oo aan iri malabkii murugada ku milmay runtii laba qof oo isjeclaaday oo gooni isula baxay oo si sharciya la isku siiyey haddana muruga uga dambeysay aad iyo aadaan horta uga xumaay masiibadii dhacdana waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marxuumka alla u naxariisto midda kale arinta oo qoyska oo laga dhawaajiyey oo la yiri haddii miro iyo nuxur laga rabo in dib loo fiiriyo oo sulux lagu dayo aaday u wanaagsan tahay laakiin waxaa ka sii daran murugada oo la yaab kale ay tahay cadaaladda Soomaaliya meesha aan ka joogno arintan waxay ahayd arin oo la yaab leh oo fidno in badan warku taal reebaysa oo shacabka Soomaaliyeed amana lamaanayaal badan oo isdooro lahay dhibaato soo koobtid muhiimadda arrintan iyo kiisaskeeda waa laga soo hadlay culimo iyo madax iyo marti kale way ka hadleen marka waqti woon haya inaad soo koobtid aan ka codsanayna waxaan marka aniga intaan ku beeri lahay in dhinacyo badan laga fiiriyo qoysku maadaama hadda ay isku adag yihiin oo ay rabaan inay dhaqmaan in maamadii waxaan ognahay maamo nin oo konton jira ma dili karta laakiin rag baa dhibaatada geystay sida oo hadda meelaha ka muuqato in cadaaladda si sax ah oo aan waa maasan loo waafajiyo insha Allah wahaag daawadayaal intaas ayaan rabaa inaan caawa kusoo gabagabeeyo barnaamijkii gaarka ahaa oo Darsab TV aad kala socoteen barnaamijkan oo ugu magac darnay la kulanka lamanaha qarniga oo ay ka qayb galayeen maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo sidoo kale ruqiya cabdullaahi maxamed oo dhawaan ku aqalgalay magaalada muqdisho aqalgalkoodana uu sababay farnaxdilna oo toddobaadkii lasoo dhaafa ka dhacay magaalada muqdisho intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo intaa barnaamij ka lamid ku kulmi doono dhammaan waa bahdii Darsab TV oo isku duuban oo idin leh
kulan dambe oo xiiso leh. dadkoo dhan meeshaas u jeedaa sawirka allah sameeyo qoyskani si wanaagsan ayuu waaga ugu baryay maanta hase ahaatee casirliiqani waxaa gurigan ka jirta murugo marxuum axmed mukhtaar saalax oo ahaa aabbaha 12 carruura ayaa la sheegay in koox rag iyo dumar ah oo ku hubaysnaa baangado iyo basiin ay marxuumka baangad la dhaceen sidoo kalena ay dab qabadsiiyeen xilli uu shaqo maalmeedkiisa farsamada gaadiidka ku guda jiray sida ay sheegeen ehelkiisa waxaa dilka marxuumka loo aanaynayaa heebsooc guur. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحال إرادة عبد العزيز أحمد محمد حوق سده
waxaan ku noolahay Norway waxaan rabaa halkan la dagaalanka kacdoonka la dagaalanka heebsooca inaan uga qayb qaato maanse yar oo aan waqti laga joogo hadda 4 sano ka hor aan ka qoray oo website-yada qaar ku soo baxay laakiin haddana aan rabo inaan la wadaago maxaa la yiraahdaa bulshada anoo ka tacsiyeynaya geeridii ku timid walaalkeen rajaynayana tan inay noqoto bilowgii dhamaadka cunsuriyadda maansadu macnaha waxay la garamaysaa macnaha abwaanada iyo dadka ma aragtay curiya suugaanta iyo mujtamaca Soomaaliyeed oo dhan waxaan ku bilaabanaysaa sida tan maansada la tiriyo jeer ay masafo tahay mawhibada gabaygiyo murtideeda suugaan kuwa lagu manaysto ruux la midabta kooro lama suqmaasuqaan ahay ee waa inaad macnaysaan waxa lay mucaaraday ama layga mayro mixnadaan haysaa maantaba dhamaataa haddii aadan maqalood moodaysid aadmiga maqaamkaaga oo kale inay wada marayaan qaar baa la masabiday qaar baa maraakiib ama mudac wax lagu talo mooyaha wax lagu tumo markii ay masaartii idiin muunadeeyeen muraadkiina fuliyeen lagu yiri midgaan yahow mashaqada dagaalkiyo kuwii diiday murankoo sancadii maciin biday ma dhibaan xunbaad tahay yaa loogu mahadnaqay kuwii muruqa maalo dadkii kale ka maarmo magansado ilaahay magac baad ku sheegteen maqaartaad nacayseen kuwii muunadeeyo kuraas lagu murtaaxiyo jaakadaha ka muhandasay waad mala awaasheen